ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee qiso dhaba oo magaceedu yahay maalmihii tagay. waxaa idinla socodsiinaya anigoo maahir jaamacaadan ah. ilaa subaxnimadii waxaan fadhinay booseejada ay ka baxaan gawaarida aadda magaalada Kismaayo ee ku taalla Bakaaraha Muqdisho. aniga iyo saaxiibka Ibraahim waxaan ka mid nahay dad rakaab ah oo ku qoran gaari nooca ay Soomaalidu dhahdo Hoomay oo rakaabka laba ruux ay ka dhiman yihiin. sidaa darteed ilaa duhurkii waxaan dusha ka ilaashanaynay gaariga oo ay rakaabkii kalena dul dhooban yihiin. labadeennu kuma qanacsanin gaarigan waayo rakaabka saaran waxay u badan yihiin dad waayeel ama da'. waxaan aad u jeclayn inaan ka mid ahaano rakaabka gaari kale oo ay kaayagu mar wada safrayaan, kaasoo ay rakaabkiisu ku jiraan gabdho labis iyo midab qurxoon, kuwaas oo dhalinyaro wiilal la mid ahna gaarigu ay wada saaran yihiin. inta la joogay booseejada aniga iyo Ibraahim waxaan qasbanay inaan isbaranno gabdhahaas qaarkood, walow raggii la safrayay aysan ku qanacsanayn salaanteenan muraad kale, haddana ninna kan kale uma joojin. iyadoo uu jawiga booseejada noo camiran yahay oo aan gabdhihii uga sheekaynayno sheekabatan ay ka qosol iyo xiiso badan tahay, ayaa mar la yidhi gala gaariga. halkaas waxaa ku kala dhaqaaqay wiilal iyo gabdho sheekooyin badan ay qabyo u yihiin. waxaan aniga iyo Ibraahim galnay gaarigeennii oo aan ku lahayn boos dhexe. xagga muraayadda waxaa naga fadhida maamo ama hooyo wadaad ah oo sidata tusbax ay qoorteeda ku soo wareejisay 5 jeer, kana koobnaan kara kumanaan, waana qof hilboon. waxaa xiga Ibraahim, aniga oo dadka saaran gaariga ugu dhuuban. markaas waxaan gudaha ka soo xigaa Ibraahim. waxaan salka ku hayaa meel sacabku deeqo, waayo kursi loogu talagalay 2 ruux ayaan ku fadhinaa 3 qof oo mid anaga naga mid ah oo u dhigmo 2 ruux. wuxuu saacad nagula wareegayayba gudaha magaalada gaariga. kadib 2:00 duhurnimo ayaan ka dhammaanay magaalada Muqdisho. waxaan fuulnay laamiga aada Afgooye. jajab, kulayl iyo cidhiidhi ayaan isla hayn la'ahay. markasta waxaan gadaal ka eegayaa gaarigii ay saarnaayeen asxaabtii aan booseejada isku baranay ee u badnaa gabdhaha, laakiin mar kaliya ayuu gaarigoodii si xarraga leh noo dhaafay ama basay. waxaan indhaha la raacay gaarigoodii. dhammaan dadka saaran way dhoolla cadaynayeen, farxad iyo nashaad ayaa ka muuqday. marka marxaladda gaariga iyaga loo eego dhabtii, waxay dadka saarnaa gaarigaas kale u ekaanayeen dalxiisayaal haysta wade ama darawal ka xariifsan kaayaga. waxaa u baxayay muusig, dhammaantood waa dad isu wada furfuran. xilligaas haddaan gaarigaas ka helayo xitaa sagxaddiisa meel aan ka fadhiisto waan ku biiri lahaa iyaga, laakiin waxay ka fursan weyday inaan kayga imaansado. dabcan ma lahan gaariga iyaga wax jabaqa sida muusig ama sheeko, laakiin qufaca oday iga dambeeya, wardiga maamada daaqadda fadhida iyo quurada dhowr gamacsan ayaa ah waxa kaliya aan isku madadaalin karo. wax yar kadibna waxaa bilowday caagag iyo boco ay dusheeda isku dhaafsanayaan odayaal iyo habro naga fadhiya hore iyo gadaal. aniga iyo Ibraahim waxaan ahayn kuwa loo sii dhiibayo mar walba waxa sii gudbaya ama la soo gudbinayo. arrintaasina cadhadeennu aad ayay u sii laba jibaaraysay. waxaan xusuustaa in maalinkaas ay ahayd Jimco, sanadkuna ahaa 2005, laakiin ma xasuusto bisha ay ku beegnayd, waayo marka aan gaarnay isbaarada shishe ee Afgooye waxaa degay caawiyihii darawalkeena ee la socday gaariga. wuxuu aaday dhanka ragga isbaarada haysta oo fadhiisan jiray geed hoostiis oo ay baca ku xidheen. kadibna waxaan maqalnay xabad ama rasaas. waxaan ka wada degnay gaariga oo taagnaa. kadibna waxaan aragnay dhaawaca caawiyihii gaarigeenna iyo arday yar oo xidhnaa dharka iskuulka ama uniformka, oo ay dadkuna leeyihiin war waaba Jimce, xaggee ardaygani ka yimi. hal xabada ayaa isu wada martay labadooda. halkaas waxaan ku weynay caawiyihii gaariga, laakiin safarkeennu marna ma hakan oo waan sii wadanay. waxaase gaarigii ka bilowday sheekooyin walaac iyo cabsi miiran ah. qof walba wuxuu bilaabay inuu ka sheekeeyo wixii ugu naxdinta badnaa ee uu u soo taagnaa. arrintaasi ma ahayn wax aniga iyo Ibraahim aan jeclaysanaynay. waxaan u sii dhaqaaqnay dhinaca number 50 iyo Shalambood, meelahaas oo iyana ay ku jiraan rag hubaysan oo ina cabsi weyn laga qabo. xogoo yar kadib markaan aragnay gaarigiina baasay oo ay dadkiisii laamiga dhooban yihiin iyo gaariga oo dhinac u taagan, ayaa waxay rakaabka iyagii bilaabeen cabsi iyo erayo aan ka xasuusto. alla waa la leexsaday, maya waa la haystaa. laakiin aniga waxaas waxa iga xiiso badnaa inaan helnay mar kale gaarigii oo dadkii ayaga ahaa ay iga muuqdaan. nasiib wanaag ma jirin wax dhibaato ah,
ee gaarigaasi wuxuu sugayay kan aan saarannahay oo aan aad u dheerayn. Waxaan ku dooday markiiba aniga, warniyahow u kaadi aan luga baxsanna xoogo. Laakiin darawalkii wuxuu yidhi istaag ma jiro, oo gaarigii intay darawalkii kale wada hadleen baan sii gudubnay. Waxaan soconnay maalinkii oo dhan ilaa aan xilli habeena gaarnay Hiike Maxaad oo aan isku qabannay inaan ka cashayno tuuladan ama aan ka cashayno Kunyo Barrow. Intii ay socotay dooda ayaa waxaa yimid niman hubaysan oo wata gaari Toyota ah oo ka yimid dhinaca magaalada Baraawe. Waxay kor u fureen rasaas waxayna amreen in gaarigii aan wada soconnay rakaabkiisii ay degaan dhulka kadibna alaabta la degaan. Waxay ahaayeen koox ama beel u socota inay dhacaan gaarigan oo nin kale reerkiisu ay haystaan gaari kale oo reerkani wax dhacaya ay leeyihiin. Waxaa cajiiba darawalkeennii waxaa soo fuushay cabsi xoog leh, wuxuuna yidhi waan dhaqaaqaynaa. Laakiin rakaabkii ayaa yidhi bal ugu yaraan dadkan shacabka amaan caawinno oo sugno ileen deegaan ma ahane. Dadka qaarna waxay noo sheegayeen in waddada hore ay ku jiraan maleeshiyaad gadoosan oo rasaasna huwin kara. Laakiin ka dhaadhicinteennii darawalka arrimahan iyo doodeennii way socon waayeen. Aniga iyo Ibraahim oo aan awalba ninkan iyo gaarigiisa ku qanacsanayn ayaa kuraasteennii siinay 2 ruux oo ka mid ahaa dadkii laga dhacay gaariga. Waxaan sidaas uga mid noqonnay dadkii habeenkaas isku diyaariyey inay seexdaan laamiga tuulada Hiike Maxaad. dadku wuu nala yaaban yahay oo waxaa isweydiin leh maxaa wiilashan ka reebay gaarigooda. Qudheenna jawaabtaas cudurdaar baan u haynaa, laakiin ma jirto sabab aan dadka ku qancinno. Waxaa noo yimid rag maamul ah oo Baraawe ka socda, waxayna siiyeen darmo iyo meelo dugsi ah oo aan seexanno. Gabdhihii aan islahayn waqti la qaata caawa waxaa kaxeeyey guddoomiyaha tuulada oo xaafadiisa seexiyey ciil weyna. Aniga iyo Ibraahim waxaan habeenkaas dhaxalnay kutaan iyo kanaaca calaf u lahaa dhiigeenna. Waxaan soo toosnay subaxii tuulada oo ciidan dhooban yahay lana leeyahay waa in dadkaasi la soo guraa. Dadka laga hadlayo ma ahan annaga ee waa dadkii saarnaa gaariga naga tegay. Markii uu gaarigeennii aan ka hadhnay dhowr kiiloomitir dhaafay tuulada ayay qolo maleeshiya qaateen xitaa alaabtii saarnayd gaariga ee uu shacabku lahaa. Labadan gaari waxaa wada leh hal nin, waana sababta uu darawalkii nooga baxsanayay meesha, laakiin uma suuroobin baxsadkiisa. Haddaba waxaan sugnaa waa dadkii xalay naga tegay oo saaka waddada lug ama socod ugu soo jira. Markaas aniga iyo Ibraahim durbadiiba waan ka qanacnay wixii xalayna helay. Waxaana markiiba anagoo aan quraacan raadinay gabdhihii oo 2 ka mid ah aan indhaha si dhow ugu haynay. Waxaan se aragnay iyagoo gaari tignika ah ama gaadiidka dagaalka ka soo degaya, weliba aad u qoslaya. Aad baan arrinkaas uga caroonnay labadeenna, waxayna na gelisay cabsi iyo inaan gabdhahaasi ku degdegin mar kale. laakiin safarkan sheekadiisu waa mid ma filaan cajiiba, waayo waxaad isweydiin kartaa imise maalmood baan ku tegi karnaa halkan ku soconnay. marxaladaha aan wajihi doonno ma yihiin kuwa suuragal ah. waa maxay mucjisada ay sidato sheekadan? waxaad ka heli doontaan jawaabaha qaybta 2 ee taxanaha sheekadan maalmihii tagay. ku soo dhowaada qaybtii 2 ee qiso dhab ah oo aan ugu magac darnay maalmihii tagay. anigoo Maahir Jaamacadana ayaa idinla socodsiinaya. markii aan aragnay gabdhihii oo qoslaya kana soo degaya gaari nooca dagaalka ama Soomaalidu ay tiraahdo Technico, waxaan aniga iyo Ibraahim dib ula noqonnay salaantii iyo maxabbadii aan la goobaynay gabdhahaas. annaga oo iskeen u caraysan ayaan isaga leexannay meherad shaah iyo cunno lagu iibinayay oo ku taalla dhinaca laamiga. waxaan qaadanay 2 kursi oo caaga, waxaan dalbannay shaah bigays iyo caddaysa. laakiin weli waxaa indhaha aan ku sii haynaa gabdhihii oo ay markaan weheliso mid saddexaad oo aan ayaga quruxda muuqa ka dhicin, laakiin uma firfircoona sida labadan indhaha la raacayno. waxay hadba ruux salaamaan gabdhihii. waxaa ugu dambayn soo jiitay halka aan fadhinay, waxayna soo gurteen kuraas iyagoo dhankeenna soo aaday. annaguna fadhigii caajiska ahaa ayaan burburinay durbadiiba. waxaan isu diyaarinay soo dhoweyn. maba ahan raggii ciilka la shaahayay
dhoolla caddaynta iyo soo dhoweynta aan samaynayno waaba jawi iska yimid maba ahan midaan ku talagalnay. salaan kadib waxaa noo bilowday xog waraysi ah xaggee xalay lagu kala baaday. ibraahim aniga ayaa xilligan qasbaya oo isagu wuxuu jeclaan lahaa gabdhahan iyo hawshooda inaan ka baxno, laakiin waxaa iman doonta maalin ka duwan maanta haddii aan sii wadno qisadan. wax kasta waxay ahaan doonaan cagsi ama sida ay ahaayeen si ka duwan, laakiin saaka sheekadu waa mid guud. gabdhihii waxay noo sheegeen in xalay ay seexdeen meel ka wanaagsan halka annaga aan seexannay, waxayna noo sheegeen xogo aynan ogeyn annagu markaas, sida in qadada aan ku leenahay magaalada Baraawe oo uu noo imaanayo gaadiid magaaladaas noo qaada. waxaana casumay maamulka degmadaas oo ka war helay in dad badan oo rakaaba ay ku dayacan yihiin Hiijo Maxaad oo wax yar u jirta Baraawe ama ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmadaas. intii ay noo socotay sheekada kala xoqaadashada welina aysan soo gaarin dadkii wadada looga leexsaday gaariga ee lugta ku soo jiray ayaa waxaana dul yimid gaari bas ah. kadibna waxaa la yidhi aaway dadkii rakaabka ahaa soo fuula gaarigan. waxaan isku gurnay gaarigii, qof walbana boorsadiisii ayuu gacanta ku sitaa. waxaa annagoo fara badan naloo jiheeyey dhanka Baraawe. waxaan gaarnay magaalo ka duwan wixii magaalooyin Soomaaliya aan soo arki jiray. magaaladu waa mid wada qadiimi ah, badi dhaqamada iyo lahjadaha waa kuwa ka duwan gobollada kale ee dalka. ma jirin wax hotel ah oo ku yaalay magaaladaas, sidaa darteed waxaa nala geeyey meel aan ku qiyaasayo iskuul hoose dhexe ama xarun dowladeed oo ay markaas dhowr maleeshiya ah hub la taagan yihiin iridda. markii uu baskeennu gudaha u galay dhismaha ayaan ka wada degnay. waxaan isdhoobnay meel baska agtiisa ah. kadibna waxaa gadaasheenna ka hadlay oday sitay macawiis iyo shaar oo fadhiya jardiin yar oo dhinaca ilinka dhismaha ku beegan. wuxuuna yidhi kaalaya halkan. markaan aadnay dhankiisa oo aan u dhowaanay ayaan gartay ninka. wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay magacaygu waa Cabdulaahi, waxaan ahay odayga magaaladan, marka soo dhowaada. waan ka xumahay wixii idinku dhacay. intaas markii uu yidhi si toos ayaan anigu u fahmay qofka uu yahay. waxaan noqday kan u horreeyey ee dhulka salka dhigay, xitaa boorsadaydii kuma fariisan. laakiin mid ka mid a gabdhihiibaa intay xaggiisa u dhaqaaqday oo fariisatay meel dhinaciisa ah tiri, haddaad odayaasha ka mid tahay magaalada ma iskuul baad na seexinaysaan mise gaarigeennii baad noo soo celinaysaan? waxay raacisay hadal ahaa Soomaaliya waxaa halkaas dhigayba waa oday. markay halkaas marayso ayaan ka baqay inay qolo kale oo naga mid ah si daran u hadlaan, waayo ma garanayaan odayga isku soo koobay Cabdulaahi. markaas baan la soo booday anigoo kor u hadlaya, guddoomiye Cabdulaahi Xalane Dhuxulow, waad mahadsan tahay sida aad dadkaaga u caawisay, waana waxaan kaa filanaynay. kadib dadkii baan idhi ninkan waa guddoomiyaha dhammaan deegaanada aan joogno, waana nabadoon ee aan u mahad celinno. gabadhii su'aalaha isla maqiiqiisay markaan soo jeestay waxayba taagan tahay garabkayga goormay soo kacday xaji. wuxuu yidhi soo dhowaada, waana la soo celinayaa gaarigiinnii si nabad ah ayaadna ku sii wadanaysaan safarkiinna. kadibna wuu naga tegey. dadkii aniga ayay markiiba su'aal igu soo dhaqaaqeen, sidee ku garatay ninkan? ilaan waxaad lahayd waa markii iigu horraysay aan imid magaaladan. waxaan ku soo koobay joornaalada akhrista oo idaacadaha dhagaysta walaalayaal. waxaan diidayay inaan sameeyo faahfaahin intaas ka badan, laakiin waan ogahay in idinka dhagaysanaya qisada iyo kuwii ila socdayba aad weli rabtaan jawaab intaas ka badan. gudaha sheekada ayaad ka dhexeli doontaan dhammaan jawaabahaas. maalinkaas 3 neef oo ari ah baa naloo qalay, hilib iyo bariis aad u macaan, kalluun iyo qudrad macaanna ay garab yaallaan ayaan kaga dharagnay casumaadii deegaanku noo sameeyey. kadib darmo iyo joodarayaal cusub baa naloo keenay. maalinkaas ilaa fiidkii waxaan aniga iyo Ibraahim la qaadanaynay gabdhihii waqti aan kaga gudubnay caradii iyo kala cabashadii dhexdeenna soo taallay wax badan. waxaan ahaanay dadka wada safraya kuwa isugu dhow ee haddana si fiican isu waraystay, annagoo isaga caweynayna darin meel barandada dhinaceeda taalla. weliba ay gabdhuhu markaa yihiin 3,
halka aan annagu laba nahay oo mar walba aan isleenahay wariyaa tan yari idin dhaafiya ayaa noo yimid askari wuxuuna yidhi adiga waa lagu yeerayaa ee soo kac waa aniga qofkaas loo yeeray laakiin ma kicine waxaan idhi ma aniga markaasuu yidhi haa adiga waxaan u kacay sida markab dekad ku soo xidhanaya waxaan ku daahay qaabka aan u kici lahaa haddana hadbadhan ayaan kabahigii ka raadiyey anigoo ay maskaxdaydu ku maqan tahay war maxaa ku soo galay caawa laakiin ibraahim ayaa yidhi waan israacaynaa gabdhihiina sidoo kale laakiin askarigii ayaa yidhi maya keligii ayaa loo baahan yahay waan israacnay askarigii anigoo gadaal u soo eegaya asxaabtaydii ayaguna way soo kaceen oo ilaa ilinka waxay eegayeen halka la ii wado laakiin gaari nooca dagaalka ay Soomaalidu tiraahdo cabdibile ayaa shirka hore la saaray kadib xawaare iyo boor ayaan kaga dhaqaaqnay halka ay saaxiibadeen dhurnaayeen dadka Soomaalida oo dad aad u xamaasadow qaarkood markiiba waxay leeyihiin warninku muxuu ahaa horta ma taqaanaan ibraahim qudhiisa ma garanayo waxa aan ahay aniga waayo waxaan isku baranay bosteejada qaarkood waxay leeyihiin ninku Masir Doomba qaar kale waxay leeyihiin mayeekani waa u dhamaatay inuu soo laabto harajeynina huwa ugu macquulsanaa waa gabdhihii oo yidhi ninka armu adeerkii yahay ninka meesha xukuma laakiin dhammaantood xitaa uma soo dhowaa inay fahmaan cidda aan ahay iska badaa inay cabiraan sababta la ii kaxaystay inta aan la gaarin meesha la ii waday ayaa waxaa nagu hor yimid baskii maantana keenay halka oo rakaab cusub wada una sii jeeda halkii layga soo kaxeeyey aamusnaan ayaan ku saarnahay gaariga waxaan isu diyaariyey wax walba oo ay noqoto inaan la kulmo laakiin maxaa la ii kaxaystay xagee la ii wadaa maxaan la soo kulmay kuma ayaan noqon doonaa aniga waa maxay qisadan xagee nagu simi doontaa lama filaanku waa maxay la soco qaybta saddexaad ee qisada maalmihii tagay kusoo dhawaada sheekada maalmihii tagay qaybteeda saddexaad waxaa qoray sheekadan wariye maahir jaamac aadam qaybtan waxaa codaynaya anigoo ah ciise maxamuud ciise maleeshiyadii igu soo qaadatay gaariga marna aniga iyo ayaga oo aanan wada hadlin ayaan soo gaarnay halkii ay ii soo wadeen waxaana meesha ku diyaarsan dhowr qof ugu yaraan 4 ruux oo uu ka mid yahay ninkii xukumayay magaalada waxaase la fariisiyey kursi la mid ah kuwii ay ku fadhiyeen waxa la su'aalay ka waran joogistaada Baraawe waxaan isla ruuxay jawaab codkeedu aad u hooseeyo oo ahayd wali inaan joogo Baraawe ma malaynayo waayo halkiina la dajiyay ayaan wali iska fadhinaa jawaabtaas mid walba oo ayaga ka mid ah wuxuu ku qoslay sida inuu aad ugu riyaaqay ogaalka jawaabtaydaas laakiin gudoomiyihii ayaa igu yidhi waxaan rabnaa inaad u soo wareegto halkan aqalka martida waayo muddo ayay qaadan kartaa in la xalliyo arrinta gaadiidkiina ujeedadu waa inaan ka soo dhex baxo rakaabkaygii oo aan anigu helo soo dhaweyn gooni ah laakiin arrinkaas aad baan uga cudur daartay oo waxaan codsaday inaan ku faraxsanahay la joogista asxaabtaydii iyo rakaabkii aan wada soconay waxaa ku jirta ujeedo ah in lala socdo dhaqdhaqaaqayga si aanay u dhicin wax la mid ah xaaladihii kalifay in lagu qasbanaado in rakaabka loo soo daadgureeyo Baraawe markaas ayada ahna waxa ay dadka ku nool magaaladu ku soo jeedaan dhanka xeebta dhuxusha iyo kalluunka waa labada dhaqdhaqaaq ee xagga dhaqaale ugu weyn ee ka jira magaalada waana ammaan dhan kasta gudaha magaalada laakiin cabsidu waxay taalaa wixii ka baxsan magaalada waxaa la aqbalay inaan u laabto rakaabkaygii waxaana la ii soo dhiibay gooyo waaweyn iyo dhowr caag oo waaweyn oo biyaha la cabo ah kadibna waxaan ku soo laabtay saacad kadib asxaabtaydii oo markii ay arkeen aniga oo soo galaya ganjeelka soo dhaafaya ayay iigu dhawaaqeen magacayga si wada jir ah kadibna waxaan soo dhoobay goobta dhammaan wixii la ii soo dhiibay waxaana u qaybinay dadkii da'da ahaa ee nala socday asxaabtaydii oo aad ugu xiiso qabta soo laabashadeedii ayaa iigu yidhi maba aanan aaminin adiga oo nabada
inaad soo laabanayso, iska daa inaan ku fikirno adiga oo gooyo noo sida inaad nagu soo noqonayso. Saaxiibaday waxaan u sheegay in meel martida qaaska ah la dejiyo la igu casuumay oo aan dartood u diiday inaan dhigo halkaas. Laakiin hadalkaygaasi wuxuu noqday kii ugu maada iyo qosolka badnaa ee ay iga maqlaan maalmihii aan wada soconay. Ibraahim ayaa si kaftan ah iigu yidhi, bal intaas bahasha nooga daa ee waxaad noo sheegtaa maxaa la lahaa gaadiidkeennii. xaqiiqdii saaxiibaday xitaa haddii ay fikiri lahaayeen wakhtigaas waxay fahmi lahaayeen in gogosha iyo gabaadka ay haystaan ay sabab ku timid oo aysan iska iman. waxaan la wadaagay in wakhti ay qaadanayso soo celinta gaadiidkeennii ama in la helo gaadiid noo sii qaada safarkeennii ku aadanaa Kismaayo oo aan maalinkiisa saddexaad fadhinno Baraawe. arrinta qof walba oo ayaga ka mid ah aad buu uga xumaaday, laakiin waxay keentay in loo macaamilo sida dad deegaan ah calashaan laga fikiro dhaqaalaha qof walba uu haysto, dharka la dhaqdo oo cunnadana si wadajir ah loo wada karsado. intii aan ka maqnaa ayuu Ibraahim aad u sii bartay gabdhihii. wuxuu ii sheegay in magacyada dhabta ah ee gabdhahan la kala yidhaahdo Fardowsa iyo Ikraan. Ikraan waa gabadha uu Ibraahim qalbi ahaan ula sii darsay. waa nin dhalinyaro ah oo ay u fududahay inuu si dhow ula saaxiibo dumarka, weliba tan uu damco uu ka samaysan karo xiiso iyo kalgacayl si dhaqsi ah. inta aan maqnaa ayaa aad la isu waraystay. Fardowsa waa tan dhankayga soo eegaysa, laakiin waxaan dhaho ma hayo. Ibraahim ayaa yidhi, war saaxiib, annagu intaad maqnayd waan is waraysannay ee bal waran adna, kollay caawa jiif ma jiro ee waa la sheekaynayaa. waxaan su'aalay sheekada aad iga rabtaan xaggeen ka bilaabaa. Fardowsa ayaa soo bowday kolkiiba, waxayna tidhi ka sheekee noloshaada, jacayladii ku soo maray iyo hadda noloshaada. su'aashaas waxaan u fahmay in wax xidhiidh ah oo ay nolosheeda ruux la leedahay laga raadinayo. haddana ma ihi ruux geesi ah oo su'aashaas noocaas ah uga jawaabi kara Fardowsa. laakiin waxaa jira wax qanaca Fardowsa iiga ahmiyad badan oo aan golaha kaga faani karo caawa. saaxiibayaal, noloshayda jacaylkii u horreeyey waxay dareentay sanad ka hor. isla sanadkaas ayaana guursaday gabadhtii ugu quruxda badnayd gobolka aan joogno. weliba haatan waa xaamilo 4 bilood ah. waxay sidaa cunugu igu horreeyey ee dunidan dusheeda igu dhihi lahaa aabe. walow aanay jawaabteedu dad oo dhan wada farxad gelin, haddana waxaa lagu qasbanaaday in la ii wada hambalyeeyo. nin oday ah oo meel aad noogu dhow ay darin u jaallo dhegaysanayana sheekadeenna ayaa yidhi, waryaa, waa inaad gabadhaas ilmaha kuu sida aad xajisaa oo aad nin rag ah noqotaa. intaan la dhacay hadalkiisa ayaan si qiiro leh u idhi, adeer, wallaahi dunida ayaan u jeclahay. hadalka markuu halkaas marayo ayay Fardowsa kacday, waxaana ka daba kacay Ikraan oo lama filaan u aragtay kicidda Fardowsa. Ibraahim oo isna sii kacaya ayay Fardowsa caag meesha yaallay biyo ay cabto ka shubatay kuna soo laabatay fadhigeedii. maba ahan jawigu sida ay moodayeen. Fardowsa waa qof cajiib ah. aniga iyo Fardowsa waxaa noo bilowday sida dad hadda isbartay inaan xoogaa kala gaabsanno, weliba xishood yar dhexdeenna yimaado, waayo wax walba waa wax aan anigu leeyahay sababtooda. laakiin saaxiibka Ibraahim iyo Ikraan waxay isugu sii dhowaadeen saa'id, waxayna bilaabeen inaysan la dhuuman ficilada ay ku muujinayaan xidhiidhkooda jacaylka ee ay ku samaynayaan horteenna. taas waxay mararka qaar keenaysay in dadka waaweyn ee nala socday noo arkaan dhalinyaro ka dhacsan nolosha. waxaan bilaabay inaan ka fogaado mar walba oo ay lamaanahaas meel aan joognay isugu yimaadeen, waxaana halkaas ku sii kala fogaaday saaxiibadii wada jiray. sidaa oo ay tahay, Ibraahimkii aan shalay qasbayay, aniga ayaan haatan ku kadhila ka daa dhaqanka sidaas. waxaan galnay maalinkii afraad ee safarkeennii aan kaga soo baxnay Muqdisho kuna soconnay Kismaayo, balse aan weli ku sugannahay Baraawe. waxaa noo yimid rag ka socda maamulka. waxa ay sheegeen in gaarigii lagu dhacay Hiijo Maxaad la soo celiyey, laakiin kii laamiga laga leexsaday ee rakaabka badi hantidiisana saarnayd weli lala yahay. waa ay ku maqan yihiin ciidan loo diray hawshaas. marka waxaana la siiyey inaan kala dooranno in gaarigan la soo celiyey rakaabkiisu ay raacaan oo gaari ciidan ah oo sagootiyana lagu daro sidaana ku baxaan, iyo in la iswada sugo ilaa maalin ama 2 maalmood oo lagu soo celinayo
gaariga hawdka ay kula maqan yihiin maleeshiyadu. halkaas waa kala doorasho adag marka loo eego dhalinyaradan saaxiibada ah ee maalmaha wada joogay. dhinaca kale cabsida jidka laga sheegayo oo ah wax aanay naftu u bareeri karin, haddana go'aanka annaga rakaabkii ah baana laga sugayaa. la soco qaybta afraad ee sheekada maalmihii tegey. waa qaybtii afraad ee qisada taxanaha noo ahayd ee maalmihii tegey. anigoo maahir jaamac aadan ah ayaa idinla socodsiinaya. wadatashi badan kadib waxaa la isku raacay in muddo 2 ama 3 maalmood la sugo gaariga maqan. haddii la waayo la helo gaari kale oo qaata kharashka rakaabka, kadibna dadkan u sii qaada magaaladii ay ku sii socdeen ee Kismaayo. waa joogista maalmo aan qurux badnayn, waayo aniga iyo saaxiibaday waxaan ahayn kuwa aan iska warhayn. mana garan karo sababta uu Ibraahim aad ugu caraysan yahay. maalmihii u dambeeyay waxaan ka waayay meeshiina la dejiyay. dabcan wuxuu bartay xaafado ama goobo kale oo ka mid ah magaalada, laakiin halkaas waa meesha ay qisadu macno kale ka samayn doonto. 2 maalmood kadib oo safarkeenu guud ahaan galayo maalinkiisii 6aad ayaa waxaa la xaliyay arrimihii gaadiidka. waxaan loo diyaar garoobay in qolo walba ay fuusho gaarigooda. anigu waxaan baaray gaarigaygii hore aan Muqdisho kaga soo safray, laakiin saaxiibka Ibraahim wuxuu doortay gaarigii ay saarnayd Ikraan. hadda labada gaariba uma dad badna sidii markii hore ay ahaayeen, waayo shakhsiyaad yar ayaa isaga laabtay Muqdisho maalmihii xalinta hawsha lagu jiray. sidaa darteed aniga fadhi wanaagsan ayaan haystaa markan. xilli galaba ayay labada gaari oo wehliyo gaari ciidan oo sii dhaafiya meelaha cabsida leh ee looga shakisan yahay burcadda ka dhaqaaqeen Maraawe. waxaa loo jihaystay Kismaayo. inta aan la gaarin Kunya Barrow ayaa nin xerow ah oo kursiga iga horeeya fadhiya intuu dib ii soo eegay yiri, saaxiibka oo guuriya fiican kama hayo. waxaan ku yiri, kee weeye saaxiibkay? wuxuu igu yiri, saaxiibka aad wada socoteen ee hadda gaariga naagtiisa raacay. waxaan idhi, malaha waad waalan tahay ninyahow. inta uu yaabay buu igu yiri, sheekh, ninkii aad kursigan wadaagayseen ee aad gabdhaha daba joogteen labadiinna maba taqaanidba. waan fahmay in tilmaanta uu bixiyay ninkan uu yahay Ibraahim, laakiin kelmadda naagtiisa ayaan qaadan waayay oo waxaan xerowgii ku yiri, laakiin naagtiisa maxaad ula jeedaa? intuu madaxa hoos igu soo dhigay codkana gaabiyay ayuu igu yiri, waa xaaskiisa xalaasha aniga mehriyay habeen hore. mar waan qoslaa, marna waan yaabaa. waxaan idhi, ma adiga mehriyay? wuxuu yiri, haa, laakiin saaxiibka gacan adayg weli sug ayuu igu hayaa. intaan si xooga u qoslay baan idhi, war adiga ayaaba dambiile ah oo nin ku safraya halistan awalba naftiisa halis ku jirtay, haddana mas-uuliyad kale dusha u saaray. aniga iyo xerowga oo ay sheekadu isugu kaaya dhacayso ayaa waxaa la gaaray halkii gaariga ciidanka nooga hari lahaa. kadib waan macsalaamaynay ciidankii. waxaa isku soo haray labada gaari oo markaa u kala tartamaya Kunya Barrow. si nabad ah ayaan ku gaarnay Kunya Barrow. waana xilli fiida. waxaa la isku raacay in la tukado 10 daqiiqo kadib safarka uu sii socdo. anigu markii la istaagay horey baan Ibraahim ka raadiyay. waxaan u hambaliyay isaga iyo Ikraan. way iga gudoomeen, laakiin Ibraahim wuxuu ku hantay Ikraan qiso uu sameeyay si ay iyadu markaas jeclayd. iyaduna waxay eegaysay marxaladda haysata markaas oo ay u aragtay inuu Ibraahim yahay furihii ay qaanadaha mustaqbalkeeda ku sii furan lahayd. labaduba qisadoodu ayada ayaa iskeeni doonta. waxaana ku simeynaa inaan gaarno waqtigeeda. anigu wax ka baxsan hambalyada guurkooda lama hortagin, laakiin waxaan aad isu weydiiyay haddii ay lamaanuhu sidan fudud isu aamini karaan oo wax la eg 7 isbarasho jacayl iyo guur lagu samayn karo. waa maxay qisooyinkan jacayl ee qaata sanadaha? dhinaca kale marxaladaha wadada aan ku soconno waa mid ay adag tahay in nin dhalinyaro ahi ku sameeyo ama uu ku fikiro jacayl iyo guur, waayo saacad walba waxay dhagaha iyagu maqlayaan haliso laga sheegayo horteena. qof walba oo tuulada joogana waa mid caraysan oo hubaysan oo raadinaya qof kale oo dilo. tobankii daqiiqo waan dhamaysanay.
waxaan ku laabannay gawaarideenii kadibna waxaa sii horreeyey oo dhaqaaqay gaarigii uu saarnaa Ibraahim. waxaa kaxaynaya darawal aad u dheereeya, annagu cabbaar waan ka dambaynaa. qiyaastii saacado kadib oo aan safarka sii wadanno weliba habeen gudcura ayaa waxaa laydka gaarigeennu qabtay nin oday ah oo xidhan macaawis jaallaha iyo shaar cad, ul dheer iyo caag saddexla ah oo taagan waddada dhinaceeda, wax tuulo ahna kama dhowo halkaas. wuxuu u muuqday nin u lugaynaya jihada aan ku soconno, sidaa awgeed dad aan ka mid ahay waxaan ku nidhi darawalka, alla walaalow sii qaad, kursi wuu bannaan yahay. darawalkii dhagaha ayuu naga furaystay, laakiin markii uu wax yar dhaafay ayuu istaagay, kadib gadaal u soo qaaday gaariga. waxaan soo qaadnay odaygii oo wuxuu diiday inuu fadhiisto. wuxuu salka dhigay sagxadda gaariga ee ku beegan iridda gaariga laga soo galo. waxaan ku dadaalnay inuu kursiga ku fadhiisto, gebi ahaanba wuu naga diiday arrinka. haddana waan isku dhibanayn isfahamka lahjadda awgeed. waxaan aad ugu mashquulay daawashada odayga. waxaa iiga muuqday wejigiisa harraad, gaajo, ciil iyo dhib aan fasiraad kooban lahayn. haddana marna kama soo jeesan meesha wejigiisu ku beegan yahay ama uu ku aadanaa. xitaa dadkan soo qaaday wejiyadooda ma uusan eegin. xaqiiqdii dadku way la murugaysnaayeen ninka. nin oday ah oo ka mid ah rakaabka ayaa su'aalay reerka uu yahay ninka. haddana wuxuu su'aalay xaggee ku socotay. wuxuu ku jawaabay dhulka Ilaahay. jawaab cajiib ah. ninkii rakaabka ka midka ahaa ayaa ku celiyey, haddaba dhul Ilaah waad joogtaaye, waa maxay dhulka kale ee Ilaah aad raadinayso? odaygii intuu soo eegay ninkii ayuu haddana ka jeestay, wax jawaab ahna ma odhan. xoogoo daqiiqada ah kadib ayuu aniga igu yidhi, magacaygu Cusmaan weeye. malaha sidaan ugu maqanahay ama eegmadayda ayuu la yaabay. anna waxaan idhi, haye Cusmaan, haye. kadibna wuxuu ii bilaabay sheeko teelteel ah, maadaama aan ahay qofka ugu dhow meesha uu fadhiyo. waan fahmayey badi lahjadiisa, laakiin waxaa iga baxsanayay mararka qaar. waxaan u arkayay ereyo muhiim ah oo uu leeyahay. safarkan xagguu na geyn doonaa? qisaskan kala marxaladaha sidee u wada kulmayaan? ma samayn doonaan hal micno oo waxna bara? waa maxay xiisaha sheekadan? la soco qaybta 5aad ee maalmihii tegey. soo dhawaada taxanaha qaybtii 5aad ee maalmihii tegey, anigoo Maahir jaamacadana ayaa idinla socodsiinaya. odaygii intuu soo eegay ninkii ayuu haddana ka jeestay, wax jawaab ahna ma odhan. xoogoo daqiiqadaha kadib ayuu aniga igu yidhi, magacaygu waa Cusmaan. malaha sidaan ugu maqanahay ama eegmadayda ayuu la yaabay. anna waxaan idhi, haye Cusmaan, haye. kadib wuxuu ii bilaabay sheeko teelteela, maadaama aan ahay qofka u sokeeya ee ku fadhiya kursiga ugu dhow meesha sagxadda ee uu fadhiyo isaga. waana fahmayey badi lahjadiisa, laakiin waxaa iga baxsanayay mararka qaar erayo aan u arkayay muhiim inaan ogaado. waxaan ahaa xoololey, abaar xoog leh baa nugu dhufatay, kadib xoolihii baa iga dhammaaday. waxaa xigay dagaal qabiil oo tuulooyinkaas dhexdooda ah. waxaana carruurtaydii oo aan qaangaarin lagu laayay dhammaan aana qabiil, ayagoo gurigooda ku jira. islaantii hooyadood ahayd ee dhashay way waalatay, waana sakaraad hadda. reero tola ayaan ku soo dhaafay. waxaan ku socdaa jilib oo uu deggan yahay nin aan ilmo adeeran nahay oo beer ku haysta halkaas. waxaan rabaa aniga iyo islaantayda inuu na siiyo meel aan ku noolaanno. intaas waa warbixintiisii aan fahmay. waxaase jiray hadallo kale uu igu yidhi, balse aanan lahjadda darteed u fahmin. aniga ayaa waxaan ku yidhi, haddii ay xaaskaagu marxaladdaas ku jirto maxaad uga soo tagtay? wuxuu igu yidhi, xaaskayguma dilayaan, waayo iyadu waxay ka dhalatay ayaga reerka carruurtayda laayay. marka bartilmaameedka wuxuu ahaa aniga iyo carruurtayda. hadda aniga qudhayda ayaa baxsada. u fiirso dhagaystay kuwa hooyadaas ilmaheedii laayay oo odaygeediina uu ka soo baxsaday. waxay isu arkaan kuwa hooyadaas difaacay oo waxtaray. marna lama ahan kuwa xitaa u fahmaya inay ciqaabtii ugu darnayd ee dunida dusheeda lagu maro ay badeen hooyadaas. waxaa dhaba in maalmihii tegay ay noo dhaafeen casharro badan oo aan dib loo raacin, kuwaasoo weli qaarkood ay taagan yihiin.
inta aan cusmaan sheekada la waday ayaan waxaan arkayay ninkii xerowga ahaa ee ibraahim iyo ikraan isku mehriyey oo mar kasta isaga oo dholla caddaynayana soo eegaya wax yar kadib islaantii tusbaxa weynayd ee fadhiday dhanka daaqadda kursiga aan fadhinno ayaa igu tidhi wiilkaas ma aragtaa waxaa ii tilmaamaysaa oo ay farteeda ku taagaysaa ninkii xerowga ahaa ama suufiga ahaa waxaan idhi ma aqaanno laakiin mar buu arrin yar iga sheekeeyey waxay tidhi aniga ayaa dhalay wiilkaas magaciisuna waa maxamed suufi aabbihii wuxuu caan ka ahaa dhulka waamo oo dhan laakiin waa la dilay isaga wuxuu ahaa nin aabbihii aad uga bartay diinta laakiin maskax ahaan ma aha nin fiyow oo wuxuu naga lumay sannado ka hor ilaa iyo 4 sano waan baadi goobaynay weliba markaas aniga hooyadiisa geeri ayaan ku tirinayay balse ilaah baa mahad leh oo waan helay laakiin sanad ku dhowaad waxaa haysatay maxkamad islaami ah oo ku eedaysay wiilkayga inuu dad kale la shaqeeyo waxaan ugu dhaartay inuu maskax ahaan jiran yahay wiilkayga laakiin way iga diideen ugu dambayn ayay soo ogaadeen inuusan maskax ahaan taam ahayn hadda waxaan u soo kaxeeyey Kismaayo si aan meel baadiyaha quraansaar ugu sameeyo maamadii waxay hadalka ii raacisay wiilkayga aabbihii iyo walaaladii sida wadaadkan kuu sheegayay hadda oo kale waxaa dhammaan dilay aniga ilmaadeeraday haddaan xanuunsado way soo booqdaan waxay ii keenaan qaaraan anna marka aan ayaga arko dunida oo dhan baa ii urta haddana waa tolkay oo waan iska soo dhoweeyaa xaqiiqdii ma ahan arrintan maqaal ama faallo ku talla wargeys oo uu qofku marka ay dhibto qisadu isku laabi karo wargeyska deetana meel isaga ilaawi karo ee waa qiso la xidhiidha nolosha dad raba inay sii noolaadaan waxaa qalbiyadooda iyo jidhkoodaba wada gaaray dhibaatooyin aan lahayn miisaan welina lagama dawayn xanuunku waxay dareemayaan mar walba laakiin waxay u nool yihiin sida dad weligood faraxsanaa oo aan dhib arag ayaamaha waqtigu waxarlaysidaanu farxadiyo walaacuga labada qiso dhagaysigooda waxay iga dhigeen ruux kale laakiin markaan maamada hadalkeedii dhammaystay baan eegay lugta midig ee suufiga oo fadhiyey kursiga iga horreeya xaqiiqdii waxaad mooddaa in biradaba lagu jarjaray waa wada nabar boog iyo dhaawac hoos baan runtii u ooyey weliba ooyey oohin ciil huwan waxaanse dhinaca kale isweydiiyey war suufigan waalan bal ka warran lamaane miyuu isku mehrin karaa haddii ay ibraahim iyo ikraan maqlaan hawshan ka warrama waxa xaalkoodu noqon karo waayo waa kuwa hadda toddobada farxadda guurkooda ku qaadanaya wadda raf ah cabsi iyo halis badan gaari kulul oo ay badi rakaab daal iyo xanuun haya ay saaran yihiin waxba yaanan taas isweydiinteeda ku sii fogaan waayo xaqiiqdeedii waan ku soconnaa oo aan dul tegi doonnaa waxaan gaarnay tuulada la yidhaahdo xaramka xilligaas waa tuulo yar laakiin aad u cabsi badan mararka qaar inaad dhex joogtaa waa halis inaad ka baxdana waa halis kale sidaa darteed waxaa magaalada jooga rag hubaysan oo inta lacag la siiyo gaadiidka rakaabka sii dhaafiya meelaha cabsida leh haddana ishaynta qabaa'ilka awgii kuguma simi karaan meel nabada mar kastana halista waxay shacabka ka soo gaartaa meelaha deegaan ahaan ay qabiiladu ku kulmaan ama sida xuduudo laba dowladood isku hor fadhiyaan maleeshiyaadkooda waxaa habeenkaasna la amray inaan seexanno tuuladaas xilliga salaada subax markaan tukanno aan u dhaqaaqno dhinaca jilib sidii ayaan yeelnay waxaa cajiiba xitaa habeenkaasi waxaan cunno kama aanan helin tuuladaas waayo tuuladu maalmo ka hor ayuu ka dhacay dagaal oo lagu kala wareegay gacan ku haynteeda habeenkaas aan tuuladaas joogno waxaan u arkay muhiim inaan asxaabtaydii waqti la qaato waxaan u tegay Firdowsa oo gaar u fadhida salaan kadib waxaan weydiiyey xaalkii lamaanaha waxayna igu tiri darin bay qaateen oo meel geesa oo halkaas ah ayay joogaan marka hore waan la cabsaday haddana Firdowsa ayaan u arkay qof degan oo aan wax la falanqayn karo waxaan idhi ninka isku mehriyey Ibraahim iyo Ikraan ma taqaanaa adiga waxay tiri haa waan aqaanaa aniga Firdowsa gabadhaas yar oo saaxiibadeen ah iyo wadaadka iyo Ibraahim basa ayaan ahayn waxaan ku idhi nakeen waxaan geeyey meesha ay Maxamed Suufi iyo hooyadii joogeen waan salaamay kadib ayaga iyo Firdowsa ayaan isbaray laakiin muhiimadaydu waa inay Firdowsa aragto bal inuu wadaadku ninkaas ahaa kadib
markaan soo laabanna ayaan idhi soo ninkaas ma ahan waxay tidhi haa ee ninka lugihiisa ma arkaysay maxaa kaga dhacay ayay igu tidhi haddaba waxaan idhi ninka reerkaa isku mehriyey waa nin waalan oo hooyadiis 4 sano kadib soo heshay fardowsa sidayda oo kale mar way naxdaa mar way qosashaa mar waxay dhahdaa war waxan macquul ka weyn waxaan bilownay aniga iyo fardowsa inaan aad u qosolno markaanu isku dhufsanno xisaabaha jira sida lamaanaha faraxsan ee jacaylka guurkooda ku wada caweynaya halkaas iyo wadaad ka mehriyey oo isaga oo waalan hooyadii ay gacanta sido laakiin qosolkeenna waxay dadku badi u arkayeen laba dhalinyaro ah oo haasaawo qanacsanaan buuxda leh wata ha yeeshee ka duwan xaalka sidaas oo diiraddu waa berri maxaa dhici doona kaan iyo ibraahim xaggee wajihi doontaa qisadooda aniga iyo fardowsa isku soo noqodkeenna muxuu dhalin doonaa si nabada ma lagu tegi doonaa jilib xaggee qisaskan kala duwan ku kulmi doonaan la soco qaybta 6aad ee taxanaha maalmihii tegey kusoo dhowaada qaybtii 6aad ee taxanaha maalmihii tegey anigoo maahir jaamacadanah ayaa idinla socodsiinaya fardowsa sidayda oo kale mar way naxdaa mar way qosashaa mar waxay isdhahdaa war waxan macquul ka weyn waxaan bilownay aniga iyo fardowsa inaan aad u qosolno markaan isku dhufsanno xisaabaha jira sida lamaanaha faraxsan ee jacaylka guurkooda ku wada caweynaya halkaa iyo wadaadkii mehriyey oo isaga oo waalan hooyadii ay sidato laakiin qosolkeenna waxay dadku badi u arkayeen laba dhalinyaro ah oo haasaawe qanacsanaan buuxda leh wata ha yeeshee ka duwan xaalka sidaas oo diiraddu waa berri subax maxaa dhici doona habeenkaas fardowsa waxa isaga laabatay asxaabteedii iyada oo yaaban weliba sii qoslaysa ayay iga sii dhaqaaqday anna waxaan la qaatay habeenkaas rakaabkii aan isku gaariga ahayn oo aan ku laabtay waa la wada seexday laakiin xilli ay ku beegan tahay adinka salaada subax ayaa hurdada la iska kaagiciyey waxaan aniga iyo koox raga abaarnay masjid weyn oo dhagaxa oo ku yaala tuuladaas masjidka markaan gudaha u galnay waxaaba xidhay badi xuubka caarada waxaana jooga nin mu'adim ah 12 rakaabkeennii ah iyo 2 ruux oo deegaanka ayaan ku wada tukannay si jameecaha salaada subax runtii habaaska ka muuqda masjidka waxaad malaynaysaa inaan sannado lagu tukan taasina waa mid ka mid ah astaamaha iyo natiijooyinka colaadaha sokeeye markii aan ka soo laabannay masjidka oo aan u nimid gaarigeennii waxaa nagula wargeliyey in gaarigii kale ay saarnaayeen ibraahim ikraan iyo fardowsa uu saacad ka hor dhaqaaqay isagoo oo aan gaariga ay isweeshan lahaayeen waxba ogeysiin annaguse xilli iftiinka isbuuxiyey ayaan ka dhaqaaqnay goobta annagoo aan haysan ballanqaadkii xalay ee ahaa in ciidanna mariyo waddada nagula sii dari doono laakiin maleeshiyadii ballanqaadkaa sameeyey waa kuwa xalay ka dhaadhiciyey inuu keligii safro gaarigaa kale kuna sii dareen 2 nin oo hubeysan qof walba oo ka mida rakaabka wuxuu afka ku hayay aayado qur'aan ah si ilaah uu nooga xijaabo dhibta laga sheegayo waddada aan ku soconno ugu yaraan daqiiqado markaan soconnay ayaa waxaanu gudbay gaari aad u hubeysan oo ay dusha ka saaran yihiin ilaa iyo 10 nin oo badi qoriga siliska wata ama PKM waxaana gaarigaa iska leh mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta dalka waxaan ku niri darawalkeennii war raggan ha ka harin si aan cidlana loogu helin runtii markaan eegno xawaaraha ay ku socdeen iyo marka ayna arkeen sida ay u dhimeen xawaarahooda ayaa qudheeda ahayd farriin ah in shacabkeennan ay wehel iyo garab u noqon doonaan waa arrin weli ku jirta xusuustayda masaafo kooban ayay isu jiraan gawaarida markaan wadihii gaarigeennu uu dheeraynayaa annaguna cabsi ayaan dhinacyada hawdka la eegaynaa dhulku waa mid aad u burbursan godad boholo iyo dhir soo gashay waddada qiyaastii saacad iyo daqiiqada kadib waxaan maqalnay rasaas xoog leh sida 2 dhinac oo hubeysan oo uu dagaal dhex marayo darawalkii wuxuu dhimay ama yareeyay xawaarihii socodka gaariga waayo rasaasta qaar ayaa u soo dhacaysay dhankeenna qadar 5 daqiiqo ah buu taagnaa gaarigeennu iyadoo aanu cidna bannaanka uga degin rasaastii way joogsatay kadibna si tartiiba ayaan horay ugu sii dhaqaaqnay waxaa naga hor yimi 2 nin oo mid wata qoriga siliska ama PKM-ka kan kalena AK-47 oo taagan 2 dhinac ee waddada
waxay nagu tilmaamayeen ama nagu hageen gacanta si aan horay ugu soo soconno. waan soo gaarnay kadib hore ayaan u soo dhaafnay. waxaan dul nimi wax aan marnaba maankeenu geli karin. waa gaarigii naga soo tegay xalay oo waddada si dadaba u yaalla. waxaan arkay Ibraahim iyo oday kale oo ay rasaas ku taallo oo dhiigooda mare lagu celinayo. dhinaca kale ayaan eegay 3 gabdhood iyo 2 kale oo feerka iyo jirdilka ka muuqda wajiyadooda aanay indhuhu u dulqaadan karin eegistooda. way oynayaan, waxayna wada fadhiyaan meel ka yara fog halka uu yaallo gaarigoodii ay saarnaayeen. isla raggii maleeshiyada ahaa ee u soo raacay galbinta gaarigan iyo kuwa iyaga ka soo horreeyay oo waddada sii galayba waxay gebi ahaan bacsadeen rakaabkii gaarigan. way furteen oo wixii hanti ahaa way ka qaateen. ilaa xalayba gabdhaha waxay u kaxaysanayeen hawdka. Ibraahim iyo nin oday ah oo damcay inay wax un ka yeelaan badbaadada gabdhaha waxaa toogtay hal nin oo maleeshiyada ka mid ah. laakiin labaduba weli way nool yihiin. weliba Ibraahim waxa ay xabaddu kaga taallaa bowdada ama cajarka oo laf ayaa jaban. odayga kalena caloosha ayaa bannaanka taalla. haddii ay jirto maalin fulxumo iyo musiibo loo astayn karo si qaas ah, anigu maalintaas ayaan siin lahaa. laakiin gabdhaha qaar ayuu mustaqbalkoodii u badbaaday oo uu Ilaah ka daahay shartii maleeshiyada. sababta gaariga dadabka loogu dhigay waxay ahayd dabin ay maleeshiyada ku xisaabtamaysay oo ahaa inay marka dambena gaarigeenna wacdaro u dhigaan. laakiin Ilaah ayaa ka diday oo waxa ay ciidamada shirkadaasi lahayd ay ka soo gaareen dad shacab ah oo ay rag hubaysan si baan u dulaysanayaan. annaguna gaariga labaad ahaa waxa inoo ahaatay furasho Ilaah noo soo diray. waxaan u tegay Ibraahim oo aan miir lahayn oo oohin iyo buuq isku daraya. waan ka tegay, waxaan aaday gabdhihii. Fardowsa ayaa ii soo kacday inta aanan gaarin dhankooda. waxay igu tiri dhammaan gabdhaha halkaas fadhiya oo aan aniga ku jiro waxba nooma aysan reeban burcadii. kadibna oohin ayay la fariisatay. waxaan garan waayay wax aan dhaho ama ku samarsiiyo. Fardowsa oo meesheedii oohin la fadhida ayaan ka tegay. waxaan u gudbay gabdhihii kale hal mida oo ayaga ka mid ahna way la hadlaysay. waxaan u soo laabtay Fardowsa. waxaan qabtay garabka oo kor baan u istaajiyay. waxaan u soo kaxeeyay meel yara hadh ah. kadib waxaan u sheegay in maleeshiyadii baxsatay hadda markii ay ciidanka shirkadda israsaaseeyeen. haddana waa muhiim in meeshan halista ah laga baxo oo haddii ay ciidankan shirkaddu iska tagaan waxaan geli karnaa halis kale. sidaa awgeed mar haddaad nooshihiin gabdhow intaas ayaa muhiim ah. fadlan ka soo dhaadhici saaxiibada gaariga ha soo fuulaan. waxaan intaa u raaciyay in 2 nin oo Ibraahim ka mid yahay aad u dhigbaxayaan. marka waa muhiim inaad soo fuushaan gaariga. Fardowsa waa gabadh aad u maskax furan. markiiba waxay qaadatay taladii oo saaxiibadeed ayay ka soo dhaadhicisay. waxaanse la yaabay Ibraahim oo halkaas ku dhigbaxaya ayay Ikraan iyadoon xitaa eegin dhankiisa fuushay baskii. xitaa markii aynu saaraynay kursiga dambe dhaawaca Ibraahim gabadha Ikraana marna ma aysan soo jalleecin. intaas waa yaab aniga igu kooban. Fardowsa ayaa ka codsaday in gaarigeenna oo yara bannaan markaas ay ku soo biirto. wayna iga aqbashay. waxaan markiiba ka dhaqaaqnay goobta. waxayna ii sheegtay in darawalkooda wax ka og yahay shirqoolka waayo waxa gabdhaha la sahmiyey inta ay joogeen tuulada. waxaana ku talagalku ahaa in gaarigan ay saaran yihiin gabdhaha qurxoon horta keligii bannaanka lagu helo. waxaana ugu horreeyey oo gabdhaha la degay raggii hubaysnaa ee labada ahaa ee gaariga galbinayay weliba dhinac ka saarnaa. sheekada Fardowsa ma beeninayo waayo damaca maleeshiyada iyo shirqoolkoodiiba sidii ay rabeen buu u dhacay. waxaan si fahmi karin sida nin darawala shacabkiisa ama rakaabkiisa uu halista u gelin karo. waan si dul tagi doonaa xaqiiqda. waxay kaloo Fardowsa ii sheegtay xalay markii ay iga soo tagtay in sheekadii wadaadkii wax mehriyay ay wax uga taabatay Ikraan. kadibna Ibraahim iyo Ikraan u dhex maray muran laga qarinayay inay fahamto Fardowsa. oo marka ay ka soo baxayeen tuulada ma wanaagsanayn xiriirka Ibraahim iyo Ikraan. weliba waxa ay kala fariisteen 2 kursi oo aad u kala fog. haddaba Ibraahim wuxuu dhaawacan gaaray isagoo u ciil qaba dad aan anigu ka mid ahay. dabcan Fardowsana ay ku jirto. laakiin anigu waan sahashaday bixinta xogtan. aad bana oga naxay markii ay Fardowsa sidaa wax igu sheegtay. ma ahayn ku talagalkayga in warkan uu colaad keeno.
waxaan muddo soconnaba waxaan gaarnay degmada Jilib meel MCH ah oo sida cisbitaal u shaqaynaysa ayaan dhignay labadii ruux ee dhaawaca ahaa intaan ku mashquulsanayn arrinta dhaawaca ayay Ikraan oo boorsadii Ibraahim wada ama sida u timid Fardowsa kuna tiri abaayo boorsadan iisii qabo islaan eedda iigu beegan oo halkan degan ayaan xaalkayga uga soo warramayaa Fardowsa waxay tiri waa yahay laakiin Ikraan markiiba waxay ku dhacday ama raacday gaari si joogta ah alaab ugu kala qaada Jilib iyo Kismaayo xilligaasba magaalada waa ay ka sii baxaysay Fardowsana dabcan waxay niyadda iska lahayd saaxiibta may adigana eedadeed ku kaxayso laakiin sheekaduba eedda kuma jirto ee waa qorshe ay Ikraan leedahay laakiin maxaa keenay inay baxsato Ikraan iyadoo Ibraahim ku jiro xaaladan armay caafimaad ahaan wax gaareen maskaxiyan ayada kolley way naga xogogaalsan tahay ama waxay sii fahmaysaa ruuxa uu Ibraahim noqon karo armay meel u degdegaysa aaway jacaylkii iyo guurkii intaas oo weydiimo ahba waxay iman doonaan marka aan ku baraarugno inay Ikraan baxsatay aniga iyo Fardowsa oo banaanka cisbitaalka fadhina ayaa waxaana dhaafay rag hubaysan oo caraysan muuqaal ahaan u ekaa reer miyi wax yar kadibna waxaan ogaanay in raggan ay yihiin Ibraahim reerkiisa oo xogta helay laakiin waxay wax kasta isbedeleen markii uu saacado kadib uu Ibraahim la sunaaxay aaway xaaskaygii Ikraan waayo siduu u dhaawacmay marna ma aysan dul iman isaguna indhihiisu marna ma aysan qabanin ayada haddii la waayo xaaskiisa Sawaniga iyo Fardowsa ma nihin kuwii u sabab ahaa khilaafkoodii ka hor inta aanay shil ku dhicin haddaba marka la wada ogaado inaysan joogin Ikraan maxaan dadkan reer miyiga ee hubaysan weliba wiilkoodii dhaawacan yahay kala kulmi karnaa nin mucaashaqa oo waayay gacalisadiisii xilligii ugu baahnaa maxaa lagala kulmi karaa yaa halistaas nagu helin doona xagee qisaskan ku kulmi doonaan maxaa xiga oo dhici kara la soco qaybta 7 ee maalmihii tagay kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada sheekada maalmihii tagay iyo qaybta 7 waxaa qoray sheekadan wariye Maahir Jaamac Aadam waxaana aqrinaya marakan anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise wax yar oo buuq ah oo ay sameeyeen dadkii yimid cisbitaalka iyo guux xoog leh oo ka dhashay hadalkii Ibraahim ka soo yeeray ee ahaa in loo raadiyo xaaskiisa Ikraan ayaa markiiba kalifay in aniga iyo Fardowsa oo banaanka fadhina nala su'aalo aaway Ikraan kadib Fardowsa ayaa hadashay oo ku tiri Ikraan way imanaysaa oo boorsadeedii waatan waxayna aaday guri eedadeed oo degmadan ku yaal kadib waxaa noo timid qoladii oo ay hogaaminayso qof dumar ah oo aan siin karo sifo la mid ah hogaamiye kooxeedyadii soo maray dalka waxayna tiri keena Ikraan boorsadeeda waxaan ku niri waa amaano qof nooga tagay ma dhiibi karno laakiin si xoog ah ayay kula wareegeen boorsadii ma moodaa inaan nahay aniga iyo Fardowsa laba war moogayaal ah oo xukun sugayaal ah waliba sita cadaymihii sahli lahaa in lagu helo fal kasta oo lagu tuhmi lahaa gabadhii wadatay ragga hubaysan ayaa la dhaqaaqday boorsadii kadibna waxa ay aaday dhinacii lagu daweynayay Ibraahim intii aan Ibraahim la siin xogtii uu sugayay ayuu arkay boorsadiisa oo loo soo wado dhankiisa kadibna wuxuu sugayay in qofka boorsada wada ay gadaashiisa ka soo muuqato Ikraan laakiin gabadhii tolkiisa ahayd iyo maleeshiyadii ilma adeertii ahayd ruuxna ma wehelin dareen ahaan wuu isbedelay inta aan waxba loo sheegin ayuu yiri aaway Ikraan waxaa lagu yiri Ikraan waxay gaartay xaafad eedadeed oo degmadan degan waana tan boorsadeedii oo asxaabteeda ayaan ka soo qaadnay markiiba wax weyn buu fahmay wuxuuna yiri boorsadan waa taydi ee maahantii Ikraan oo Ikraan adeer eedo abti midna uma degana halkan ee qolada aad boorsada ka soo qaadeen ayaa gaari saaray oo horeyna noo kala dilay aniga iyo xaaskayga waxaad moodaa in isaga iyo Ikraan dhagarta ay isla yaqaanaan intaas markuu ilmada raaciyay oo hinna isku celinayo waliba xanuun uu u dheeryahay ayay tolkiis kacdoomeen markiiba
gabadhii hogaamiye maleeshiyada ahayd oo cadhaysan iyo ciidankeedii oo indhahoodu yahay bar dhiig ah ayaa soo abbaaray bartii ay nooga tageen ee aan fadhinay. nasiib wanaag xilligaas annagu waxaan aadnay gaarigeenna oo waxaan isu diyaarinaynay inaan sii wadanno safarkeenna. markii ay goobtii aan fadhinay naga waayeen ayay dhinaca baabuurteennii soo aadeen, waxaana mar keli ah aan ka war helay 2 gabdhood oo la kala hayo iyo rag hubaysan oo diyaar u ah inay wax kasta geystaan. waxaan soo aaday gabdhaha dagaalamaya ee haddana la kala hayo. waa Fardowsa iyo gabadhii maleeshiyada wadatay. waan yaabay, weliba aad baan uga xanaaqay in Fardowsa loo gacan qaado. waxaana si cadho leh ula hadlay naagtii ciidanka wadatay oo aan ku idhi, waa maxay dhaqankan waalida ah ee aad kula kacayso dadkan awalba dhibaatada ka soo daalay? intaas markaan idhi ayaa waxaa barta soo istaagay nin mas-uul ku ah degmada oo isna ciidan kala wata. waxaan filayay inuu dadkan hubaysan naga dulqaadi doono, annagana naga xaalmarin doono wixii dhacay, laakiin wuxuu yidhi, wax baabuur ah oo caawa ilaa beri bixi kartaa ma jiraan. wiilkaas iyo gabadhaasna soo raaca gaarigan, waa aniga iyo Fardowsa. laakiin aniga ayaa murmay oo idhi, sabab maxaan u raacaynaa gaarigaas? dad shacab ah ayaan nahay, rakaabkeenna ayaan ka mid nahay. maxaa dheeri ah oo aad rabtaan? halkan ka sheega. ninkii mas-uulka ahaa wuxuu ku soo celiyey soo raaca gaarigan. waxaan anna ku celiyey, haddaad rabtaanna toogta, haddii kalena halkan nagu waraysta. kadib dad badan ayaa isku soo xoomay si ay doodan u dhegaystaan. ninkii degmada ka mas-uulka ahaa ayaa yidhi, dacwad baa la idiin qabaa. arrintaas weli aniga iyo Fardowsa ruuxna ma fahmin. waxaan ku idhi, haddii ay dacwad tahay dee ciddana dacwaysay noo sheega. waa Ibraahim, waxaa meel agteeda ah ka tiri hadalkaas islaan gaaban oo xoog leh oo wadata koox maleeshiya ah. waa gabadhii aan ka qabtay ayada iyo Fardowsa. waxaan idhi, Ibraahimkee? waryaa, ma Ibraahim ayaadan aqoon? ninkaad isaga iyo naagtiisa intaad isku dirteen haddana xaaskiisa gaari saarteen. wallaahi ilaa xaaskiisa la helo hal qof oo idinka mid ah meeshan ka bixi maayo. waxaa sidaas isla suuraysay isla gabadhii hubaysnayd. markaan eegmadu waa aniga iyo Fardowsa oo indhaha meel sare isaga baaqnay. ileen dood baa socota, hadal la isku difaaco waa muhiim. marka way ka fursan weyday inaan dhaho, ma gabadh reerahoodii aaday awgeed ayaan annagu xabsi ugu jirnaa? su'aasheeda waxay keentay xujo aad u adag, waayo waxaan horay u nidhi Ikraan waxay aaday eedadeed. bal waa yahay, Ikraan guriga eedadeed ay aaday nageeya. waa hadalka ka soo yeeray islaantii hubaysnayd oo ay hadalkaas ku raaceen dhammaan dadkii kale ee goobta joogay. Fardowsa ayaan idhi ayadoo la wada maqlayo, Fardowsa, miyay kuu tilmaantay Ikraan guriga eedadeed? Fardowsa waxay tiri, maya, maba kala aqaan halkan maxay ii tilmaantaa? haddaba waxaan si toos ah goobta uga idhi, ma naqaano guri hooyadeed iyo mid eedadeed. waana taas gabadhii ay boorsadeeda u dhiibatay ee ay tiri, maxaa hadalkaas iga soo yeerisiiyey? waayo waxaa agteeda taagan gabadhii gaabnayd oo durba inta ah wax mashxarad la moodo ku dhufatay tiri, boorsadii Ibraahim miyaa noqotay boorsadii Ikraan? waryaab badanaa. si toos ah waxaan daqiiqadiiba u fahmay inaan ka shallayn doono saaxiibtinimadeenni dhammaan inta aan soo wada safraynay. waayo baxsadka Ikraan wuxuu si toos ah ugu ekaaday sida inaan aniga iyo Fardowsa ka shaqaynay. ugu dambayn doodeennii waxay noqotay in aanay gaadiidkeennu bixin ilaa gabadhaas la helayo. aniga iyo Fardowsana aan rakaabkeenna la joogno, laakiin dusha ay nagala socdaan. arrintaas waxay ahayd fursad aan anigu ka faa'iidaysan karo maadaama aan shirqool bartanka u galnay. ninkan kuma qabo oo wadaad waalan baa isu kiin meheriyey. markhaatiyo ma jirin. gabadha yar ee quruxda badan baa tahay ee isaga carar meesha intuu dhaawaca yahay ninkan xayraanka ah. sidan waa fikirka uu naga qabo Ibraahim inaan ku nidhi Ikraan labadeennan. sida awgeed wuxuu hadba reerkiisa ku soo xoojinayaa shakiga labadeenna. anigana waxaan qaatay durbadiiba go'aan oo waxaan ku idhi Fardowsa, saacadan kadib labadeennu waan isqabnaa, calashaan nin iyo xaaskiisa baynu nahay. Fardowsa inta ay qososhay bay tiri, been miyaan sheegaynaa? anna waxaan markayga la qoslay qalbiga daacadda ah ee gabadhaas masaakiinta ah ku jira iyo dabinka ay ku socoto oo aysan fahamsanayn. shimee isguursateen haddii la dhahana, su'aashan
ayay i weydiisay Fardowsa. Waxaan ku idhi hal habeen ayaan meherka wada dhiganay annagoo 4 saaxiib ah. Sidaa darteed sheekada waxaa muhiim ah in gabadhii yareed aan la qabadsiino haddii uu xaalku adkaado oo sheekadu ay gaarto in la beegsado mar kale Fardowsa. Si aan u dhaho aniga xaaskayga weeye cidna kuma xadgudbi karto maadaama ay tahay qof ay rag badan indhaha ku hayaan, waliba raggaas qaarkood ku mahmaahayeen bun beddelkiisa ayaa jiro oo micnuhu yahay haddii ay Ikraan baxday Fardowsa baa joogta. Fikirkan wuxuu ka iman karaa Ibraahim oo xilligaas jacayl daran u qaaday Ikraan si uu ayada dib ugu helana ma qiimeynayo saaxiibnimada iyo Soomaalinimada midna. Wuxuu isku dayay inuu na tuso awoodiisa qabiil. Habsigelinta qoyskiisa ayaa dhan walba naga haysay. wax kasta Ibraahim wuu dhayalsaday wuuna sahashaday qiimaha saaxiibtinimada. Qorshaha dhan walba wuu ka socdaa, qolo walba waxbay sii diyaarsanaysaa. Aniga aad buu ii dhibayaa walaaca Fardowsa iyo gabadha yar ka muuqda. Waxaan doonayaa inaan u ragbadsado hawshan oo aan sameeyo xidhiidho ugu yaraan xakameeya awoodda maamulka deegaanka ee la soo safanaysa 2 shakhsi oo ishaya midkood. taasna waa mid aan anigu samayn karo, laakiin ma ahan waqtigeedii hadda oo waa inaan la sugaa xilligeeda haddii laga fursan waayo. waxaa kale oo qisada ku soo biiri doona odaygii Cusmaan ahaa ee aan jidka ka soo qaadnay oo markii aan magaalada nimid iska aaday xaafad uu leeyahay walaalkii, laakiin maqlay mar dambe in la hakiyay gawaaridii rakaabka ahaa ee uu midkood isagu la socday. wuxuu xilli habeen ah naga soo raadiyay goobtii la yidhi halkaas ha ka bixina laguna hayo gawaarideenna. waa maalinkii 11aad ee aan ka soo maqannahay magaalada Muqdisho, walina aynan gaarin Kismaayo. allah maxaa xiga beri? halkee ku socotaa qisadan? oday Cusmaan muxuu micno ah uu u samayn doonaa sheekadan? aniga iyo Fardowsa isku soo dhawaanshaheena maxaa ka dhalan doona? Ikraan iyo Ibraahim maxaa kala geeyay? xagee ku wada kulmi doonaan qisaskan? la soco qaybta 8aad. kulanti wacan mar kale ku soo dhawaada sheekada maalmihii tagay. sheekadan waxaa qoray wariye Maahir Jaamac Aadam. qaybtan waxaa aqrinaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. odaygii Cusmaan ahaa oo xilli habeen ah dib noogu soo laabtay ayaan uga taariikhaynay wixii dhacay. wuxuuna la yaabay in markan ay dhibaatadu ka socoto dhexdeena. kadibna wuxuu noo sheegay inuu arrinkan gaarsiinayo odayaasha degmada si durba xal loogu helo. waan ku taageernay inay arrintan soo galaan odayaasha. kadib wuxuu guda galay in arrinkan uu deegaanka faham ka siiyo si dadku ugu baraarugo xalna loogu helo arrinkan haysta. oday Cusmaan waxaan habeenkaas isku dhaafnay intaas iyo dardaaran. waxaa la gaaray subaxii 11aad oo aan ka soo maqannahay magaalada Muqdisho, walina aynan gaarin Kismaayo. markaan waxaa taagan dood adag oo ay rakaabka qaarna ku fikirayaan in aniga Fardowsa iyo Ibraahim bal la isu keen reebo oo ay dadka kala sii wataan safarkooda. laakiin taasi ma ahan xalka dooda taagan, waayo waxaa la iska rabaa in la helo Ikraan oo aan sida kali ah ballantu tahay inaan ku sii wadan karno safarkeena. isla subaxaas waxaana soo gaaray war ah in Ikraan lagu hayo Kabsooma oo iminkana loo soo wado dhanka Jilib. sidaasna uu ku soo dhawaaday halkii ahaa in la fasaxo. warkaas dad badan wuu farxad geliyay, laakiin anigu marna ma rumaysan warkaas. waxaana taas igala siman Fardowsa uu aragtay sheekadan mid maaweyle ah. wararkaas iyo kuwa la mid ah ayaa waxay nagu dhaliyeen aniga iyo Fardowsa inaan aadno xaruntii degmada laga maamulayay. kadibna aan halkaas kula kulanno nin ka mid ah mas'uuliyiinta degmada oo magaciisu uu ahaa Xasan. ninkaas isbarashadeennii wuxuuna siiyey kalsooni aan si qoto dheer uga warbixinno arrinta taagan. kadibna wuxuu noo fahmay si dhow. Xasan waa sarkaal xilligii dowladdii militariga ahayd Soomaaliya soo shaqaynayay. badi ma jecla dabeecadaha qabyaaladaysan ama xamaasadaysan ee u dhigan sida dulmiga ah. durbadiiba wuxuuna amray inaan ku laabanno goobteennii. isaguna wuxuu noo sheegay inuu arrinkan ka soo dhaadhicin doono maamulka degmada, gaadiidkana la fasixi doono. annaga oo yara qanacsan ayaan ku soo laabannay dadkeennii rakaabka ahaa.
kadibna waxaan la kulannay maamadii wadatay wiilka suufiga ahaa ee waalna oo meel ku murugoonaysa. waxay la'dahay wiilkeedii oo ilaa saaka barqadii ma aysan arag. sidaa awgeed waxaa caawinaya dhallinyaro kale oo deegaanka ah oo ku haya, maamo waan soo helaynaa wiilka ee sug. hooyadu waxay leedahay, wiilkayga oo waalan baa iga maqan. waxay dadkuna leeyihiin, ninkii suufiga ahaa ee waalna raadiya. bal ka waran haddaan annagu, aniga iyo Fardowsa, dhahno war wadaadkii Ibraahim iyo Ikraan meheriyey raadiya. soomaad iyo murugo iswadata noqon mayso. haddaba aniga iyo Fardowsa shaki kale oo weyn bayna gelisay arrintan. waxaana dhinaca ka galnay raadinta wadaadkii ka lumay hooyadiis. laakiin waxa amakaag ahayd in ilaa duhurkii aan la'nahay Maxamed Suufi. aniga iyo Fardowsa midba kan kale ayuu war ka sugayaa. wax kasta waa malo, weli ma jirto xaqiiq. laakiin cabsi iyo xaaladaha jira awgood waxaa isku kaaya sawiray in wadaadka lala tegay. laakiin maxaa sababaya in wadaad maskiin ah uu Ibraahim ama reerkiisu ka haystaan? tani maahan suuragal ee armu wadaadka qudhiisu la yimid. ciyaar la mid ah tii Ikraan ay nooga badisay. wax kasta waa filo, laakiin hadda ayay sheekada dhadhankeedu bilaabanaysaa. waxaan sii maraynaa xilli galab ku sii dhow, welina ma hayno wax rajo ah oo la xidhiidha inaan si nabad ah kaga ambabaxno magaaladaas. ha yeeshee aniga iyo Fardowsa waxaana la gudboonaatay inaan booqanno Ibraahim oo aan si dhow wax ugu sheegno. laakiin haddana waxaan ka cabsaday in Fardowsa iyo gabadhii hubaysnayd ay goobta mar kale isku helaan. sidaa awgeed baan Fardowsa ku qaneeyey bal inaan keligay aado Ibraahim. sidaas ayaana keligay ku aaday cisbitaalka. markii aan gaaray goobtii cisbitaalka ahayd, waxaan ugu tegay odayaal fara badan iyo maleeshiyadii qaar ka mid ah oo bannaanka taagan. waxaa la ii diiday inaan gudaha u galo, laakiin goor dambe nin ayaga ka mid ah baa ii saamaxay inaan gudaha u sii gudbo. waxaana dul tegay Ibraahim oo ay odayaashii dul fadhiyaan. maba arkayn ee ileen gabadhii hubaysneed ayaa meel dadab ah oo isla qolka dhexdiisa ah indhaha igu haysa. markaan anna indhaha la helay ayaan dhoolla caddeeyey. markiina waxay u soo dhaqaaqday dhankayga. gacanta ayay ii qabatay, waxayna iila baxday bannaanka. waxay is-waashay, maxaad halkan u timid? waxaan ku jawaabay, Ibraahim waa saaxiibkay aan soo wada safarnay. dee inaan xanuunkiisa iyo waxa iska beddelay aan ogaado waa ii muhiim. jawaabtaydaas gabadha dareenkeeda wax buu ka beddelay oo waxay bilowday inay si deggan iila hadasho. aniguna waxaan aad xoogga u saaray inaan idhaahdo kelmad walba oo ay iigu sii dhowaan karto xilligaas. waxaan xasuustaa xitaa wax la moodo haasaawe ama shukaansi inuuna dhex maray, waayo waxaa ka mid ahaa hadalladayda, gabadh karti badan, weliba qurux iyo hannaan ilaahay siiyey baa tahay. iyana hadalladayda noocaas ah aad bay ugu dhoolla caddaysay. waxayna ugu horrayn magaceeda iigu sheegtay Maryan. markaasaan idhi aniguna, hadda ma Maryan gaabo ayaan kugu yeeraa mise Maryan quruxsan? inta ay yara xushootay haddana qososhay bay tidhi, maya, Maryan keli ah iigu yeer. markaas soo uma eka inaan ku sigtay inaan Ibraahim seedigay noqdo ama aan la xidido. waa haddaan dhankaas sheekada u sii wado. Maryan waxaa iiga warrantay inay Ibraahim ka weyn tahay 2 sano, laakiin iyada ay soo korisay ayayadeed oo degan degmadan Jilib. qoyskooduna ku nool yahay Muqdisho. Ibraahim uma socon Jilib iyo Kismaayo midna. wuxuu ku wajahnaa dalka Kenya. kadibna halkaas ayuu rabay inuu ka sii qorsheeyo safar tahriib ah. haddii uu tahriibi lahaa Ibraahim oo uu gacangeli lahaa Magafe, si fudud halkaas noloshiisu ugama baxdeen, waayo qoyskiisu ma lahan xilligaas awood dhaqaale oo ay durbo wiilkooda ku furdaamiyaan. waxaad moodaa in safarkiisu ahaa mid dhuumasho ah oo ay niyadda ku qabteen waalidkii. waxay sheekadu noo socotaba waxay Maryan is-su'aashay macluumaad ku saabsan Ikraan iyo Ibraahim, waxayna hadalka ii raacisay, weligay isma dhihin Ibraahim baa gabadh sidaan ugu waalanaya. daqiiqadda aan la joogaba wuxuu leeyahay naagteedii ama Ikraanteedii. marka walaalow, bal qisadaas iiga warran. waa su'aal aanan xilligaas si buuxda uga run sheegi karin. waxaan ku qasbanaa inaan wax sheego, wax uun nahambeeyo, sida inaan u sheego in labadooduba ay isjeclaayeen oo ay ismehersadeen inta aynu safarka ahayn, laakiin marna ma soo qaadin wax ku saabsan wadaadka meheriyey iyo marxaladda isku dhacooda.
waayo waxay keeni kartaa in la beegsado suufiga wax meheriyey ee maxamed suufi ahaa oo ay hooyadii weli baadi goobayso. maryan waxaan u sheegay ikraan inay tahay qof xitaa loo dhiman karo calashaan quruxdeeda iyo wanaaggeeda, sidaana ay tahay sababta uu walaalkeed ugu waalanayo. waxay tidhi haddii aad sidaa u og tahay maxaad walaalkay uga fasaxdeen xaaskiisa? waxaan ku idhi maya, waa beentaas, laakiin waxaa jiri karta sabab kaliftay inay ikraan baxsato. taasna waxaa ogaan kara oo keli ah ibraahim, waana sababta aan hadda ugu socday isaga haddii uu karayo inuu iiga warramo sababtaas. waxay tidhi anigaba waan su'aalay, laakiin aniga hadalka ibraahim waan fahmi waaye wallaahi. hadalka maryan waxaa iiga baxay arrin ah in ninka ibraahim uusan kolna doonayn inuu si dhab ah uga xog warramo arrinta ikraan iyo isaga qusaysa. waxay ila ahaatay inuu diidayo inuu soo qaado isku dhacoodii asaga iyo ikraan. hadduu soo qaadana ay tahay in la ogaado in meherkuba uu sameeyey nin waalan oo ay hooyadii gacanta hayso. sidaa darteed ma rabo in nabarradiisa la ogaado, mana doonayo inuu annaga oo saaxiibadii ahaana fasaxo. intaas waxaan ka dhexelay hadalka maryan, waana arrin aniga ii horseeday inaan durbadiiba curiyo fikir kale oo ka sahlan qorshayaal badan oo aan horay u degay. hadda maryan waan isku soo dhowaannay, waxayna maleeshiyaadku arkayaan aniga iyo maryan oo si raxmad leh u sheekaysanayna. waxaa iga degay culayskii badnaa ee isaarnaa. inaan saaxiibka maryan noqdo waa fursad kale oo saamaxaysa in durba xal la gaaro. xoogaa markii ay la sii sheekaysanaysay maryan ayaa gudaha looga yeedhay. kadibna waxay tidhi waan kuu soo laabanayaa ee halkan sii fadhi. waxaan idhi waayahay. intii ay iga maqnayd ayaan isbaray maleeshiyada ninkii igu dhowaa xilligaas oo taagnaa meesha ku beegan ilinka qolka. waxaan idhi saaxiib, waa maxay guuxa iyo odayaasha maanta isdhex yaacaya ee cisbitaalka buuxa? wuxuu ii sheegay inay yihiin odayaashii dhaqanka ee degmada oo ku jira xallinta arrinka taagan. malaha odaygii cusmaan ahaa ee kolkii hore rakaabkeenna ka tirsanaa ayaa hawsha si xoog leh u kiciyey oo meel wanaagsan marinaya, waxaana saacidaya walaalkii oo xushmad weyn ku leh deegaanka. inta uu ii waday sheekada ninkaas maleeshiyada ah ayay soo dareereen odayaashii. waa kan oday cusmaan oo isla goobta igu baray walaalkii oo ay wada socdaan, waxayna ii sheegeen rajo wanaagsan oo ah in durbana la fasaxayo. haddana waxaaba igu soo laabatay maryan oo markaan ah qof insaan ah oo rabta inay wax nala saxdo. laakiin wax walba waxay isbeddeli karaan haddii uu ilmeeyo ama ooyo ibraahim. sidaa darteed waan ka baaqsaday inaan u galo isaga si uusan dareen kale u qaadin. waxaanse maryan u soo jeediyey inaan kulansiiyo ayada iyo fardowsa oo aan ugu sheegay qof wanaagsan oo cuqdi aan lahayn inay tahay. maryan way aqbashay, waxaana u soo dhaqaaqnay dhinacii fardowsa oo ajandaheenna u dambeeyey ee aniga iyo ayada aan wada degnay u ahaa hadda laga bilaabo labadeennu waan isqabnaa. calashaan nin iyo xaaskiis ayaan nahay. waa si aan uga badbaadno shirqoollada socda goortaas. laakiin hadda xaaladdu ka duwan. sidaa ayaanu ku wada soconnaa aniga iyo maryan. sidaa awgeed maxaan kala kulmi doonnaa fardowsa? maxay dhaxal siin doontaa isu soo dhowaanshahaana dhex maray aniga iyo maryan? fardowsa sidee wax iila fahmi doontaa? ma dhabbaa in nala fasixi doono sida ugu dhow? maxaa maxamed suufi loo waayey? xaggee qisaskani ku kulmi doonaan? qaybta 9aad la soco. kulanti wacan mar kale ku soo dhowaada taxanihii maalmihii tegey qaybta 9aad. sheekadan waxaa qoray maahir jaamac aadam, waxaana akhrinaya qaybtan mar kale anigoo ah ciise maxamed ciise. maryan iyo aniga inta aan sii wada soconnay ayaan sheeko tuurtuur ah oo xiise leh sii ambaqaadnay. waxaan uga sii sheekeeyey inaan ka cabsanayay kolkii hore oo aan la kulmay ayada oo wadata rag hubaysan haddana aad u cadhaysan. waxaan kale oo kula kaftamay in wanaaggeeda iyo quruxda dabcigeeda insaaniga ah la dareemi karo keli ah marka loo soo dhowaado ayadoo aan cadhaysnayn ama ku jirin buuq iyo dagaal. waxaan tusmeeyey inay ku qurux badan tahay nabadda
inta aan waday hadalkayga maanta ah waxaa sii gaabanaysay tallaabada Maryan anna waxa igu jira degdeg oo waxaan rajaynayaa inaan ka baxno magaalada ayada oo uusan jawigeeda nabadeed uusan isbedelin. Waxaan ka codsaday Maryan inay cagta furto si aan dhaqso u gaarno halka aan ku soconno. Hadal ahaan ayay iga aqbashay laakiin ficil ahaan ma aysan fulin. Waxaan haddaba joojiyey ammaantii faraha badnayd waxaana bilaabay inaan ka sheekeeyo inaan qudheedu ahayn nin deegaanka aad u kala yaqaana welibana waayo badan ku soo qaatay. Markaas ayay tiri magaalkan dadkii hore ma joogaan hadda baadiye ayaa laga soo wada xerooday laakiin weli waxba xawaarihii socodkeedu isma bedelin. Waxayna bilowday inay markaan isla taagto tilmaamo ay iga siinayso qaybo ka mid ah magaalada waaba tallaabadii gaabnayd oo taagni lagu sii daray. Waxaan sii cagajiidnaba kolkan waxaan soo gaarnay halkii ay gaadiidkeennu yaaleen. Waxaan arkay baabuurtii oo loo soo saaray bannaanka iyo rakaabkii oo ay qaar saaran yihiin gaadiidka qaarna ay bannaanka taagan yihiin. Aniguse qofkaan rabay araggiisa ma hayo weli. Waxaan ka lexday qof salaan ila doonayay. Waxaan ilaaway in la ila socday keli ah. Waxay nafteedu goobaysaa hal ruux oo ka mid ah rakaabka. Qofkaas wuxuu iga muhiimsan yahay araggiisa dhammaan waxa magaalada jooga oo dhan. Hadba dhinac ayaan ula wareegay labada gaari mid walbana gudihiisa waan ka eegay laakiin indhuhu may heleelin. Waxaa kacday shucuurteedii oo waxaad moodaa inaan ahay hooyo uu ka lumay ilmo yar oo socod barad ah. Waxaa i damqaya meel aan la taaban karin. Waxaan ahaaday qof waayay xasiloonida ilaa ay Firdawsa ka hadashay dhabarkayga. Waxaan ahaa sida ruux laga daahay miyirka ama la soo kacay qarow cabsi iyo waali badan. Waan nafisay waxaan qaatay hawo igu filan. Kadib ayaan si degan u eegay dhanka ay igala hadashay oo ahayd dhabarkayga. Firdawsa waxay isgarab taagan yihiin Maryan oo ay kol hore soo heshiiyeen. Waxaan idhi cajiib Maryan iyo Firdawsa oo isla taagan maanta. Haye Maryanay maadiga hawshan adag qabtay. Maya annaga markaan goobtan nimidba waan arkay Firdawsa waan isaafinay walaashay adiga laakiin sida qof wax soo ilaaway baad iga carartay ee maxaa ku helay. Su'aashaas Maryan ma lahan jawaab waayo qudhaydu ma aqaano sababta ilaa heerkaas aan u dareemay xasilooni dari. Waxaanse ugu soo koobay hadal. Waxaan mooday in boorsadeydii gudaha looga soo tegay laakiin cidna ima odhan ma adigaaba gudaha u gudbay. Firdawsa oo aan weli wax su'aalahay oo dhan una muuqata in aanay ku qanacsanayn raaligelinta ay siisay Maryan ayaa i tidhi hadda ma heshay boorsadaadii. Ileen boorsadu waa mid ay ayadu kol horeba haysay. Waxaan si hoose oo dabacsan u idhi haa waxna intaas kuma darin. Ayadoo aan is hortaagannahay saddexdeennu aniga Firdawsa iyo Maryan weliba mid walba oo naga mid ahna aamusan yahay ayaa waxa goobta yimid gaari ciidan ah. Wuxuuna noo sheegay inaan fasaxanahay oo aan saacadan badhaqaaqi karno. Hal mar ayaan isu hambalyeennay rakaabkeenniina gawaarida ayay soo wada galeen. Waxaase maqan Maxamed Suufi oo aan weli la helin iyo hooyadiis. Waase arrin kale oo yeelan karta caqabadeeda laakiin daqiiqado yar uun kadib waa kuwan ayaga oo wada socda Maxamed Suufi hooyadiis iyo oday Cismaan. Sidii ay u socdeen ayay galeen gaariga xitaa iyagoo aan salaamin. Laakiin oday Cismaan ayaa nagu soo laabtay anigana gaar ila baxay wuxuuna igu yidhi hooyada kama lumin wiilkeeda ee aniga ayaa xaafadda geeyey waayo waxay ogaatay inuu isku meheriyey wiilkeedu Ibraahim iyo Ikraan. Marka waxay ka baqaysaa inuu halkaas dhibaato kala kulmo. Idinka oo dhanna waxay idin sheegtay inuu wiilkeeda lumay laakiin xaqiiq ma ahayn oo wiilkeeda aniga geeyey guriga walaalkay. Oday Cismaan wuxuu ahaa nin aan ka soo qaadnay waddo cidlo ah waana ninka xalliyey dhammaan mushkiladaheena. Ma jirin waxaan xilligaas tari karno kaliya waa inaan u furnaa qalbiyadeena. Qof kasta oo naga mid ah wuu ka mahad sheeganayay Cismaan waayo wuxuu ahaa qof insaan ah weliba Ilaah damiir uu dhaliyey. Dhinaca kale waxaan aad ula yaabay aniga kaartada iyo siyaasadda cajiibka ah ee ay ciyaartay maamada sidata tusbaxa weyn waaba islaan dhammaanteed naga wada horraysa haddana waa hooyo oo waayimayso si ay ku difaacdo ubadkeeda.
markii aan oday cismaan soo macasalaameeyey ayaan u soo dhaqaaqay dhankii maryan oo inta aan madaxa ka dhunkaday ku idhi waan ka sheekayn doonaa inaad tahay ruux nasab ah oo qof walba oo maraya jilib ay tahay inuu soo salaamo. waxay igu tidhi iga raali noqda wixii dhacay aan iscafinno abbaayana weli wejigeeda iima furin ee ha iska kii cafiso. xaqiiqdii maryan markii ugu horraysay ee aan aragnay ruuxa ay ahayd iyo markan aan ka tegayno ruuxa ay tahay waa laba uu farqi weyn u dhexeeyo, waana sababta ay dadka qaar u dhahaan barasho horteed hay nicin. waxaan ka codsaday inay iigu salaanto Ibraahim, maalmo kadibna aan isla waddadan aan ku soo laaban doono. waxaana ku ballannay soo laabashadayda inaan hadiyad xalwo Kismaayo aan soo ilaawin. waxaas oo dhan Fardowsa goobjoog ayay u tahay. kadibna aniga iyo Fardowsa waxaan galnay gaarigeenni. maamadii waxay booskaygii fariisisay wiilkeedii Maxamed Suufi. markaan arkay waan isaga leexday. aniga iyo Fardowsa waxaan helnay kursi nafis ah oo noo gooni ah. kadib waxaan daaqadda ka macasalaameynay Maryan oo runtii indhaheedu qoomamo iyo naxariisba ka wada muuqdaan. anigana intaan awoodi karayay waan dareensiiyey ilaa heerka aan ugu qanacsannahay wax kasta oo dhacay. waa xilli casar tegay, maqribna aan la gaarin. haddana jawiga waxaa beddelay daruuraha camiran ee hadhkoodu uu dhimayo awoodda cadceedda iyo kulka maalinkaas jiray. markaan ka baxnay magaalada ayaan bilownay wadahadal aniga iyo Fardowsa. markaan waxaa ayada ka soo haray aamusnaan, fikir iyo wax aanan mooday ilkaambi. sababta iyo waxaa jira ee dhabta ah midna ma aqaano. keli ah waxaan fahmayaa inuu isbeddel uu ku yimid Fardowsa. markii ay hadalka iga soo wada xirtay Fardowsa ayaan bilaabay inaan rakaabka kale isaga sheekeeyo. waxaan eegay dhanka dambe. waxaa fadhida gabadhii yareed ee Fardowsa la saaxiibka ahayd. malaha rakaabkii labada gaari si cajiib ah ayay isu beddeleen. kadib gabadhii yareed ayaan weydiiyey magaceeda, waxayna ii tiri Sundus. waxaan weydiiyey sida ay u aragto wixii nagu helay jilib. waa iska caadi waxaan, ayay hadal iigu soo koobtay. waxaan idhi Ikraan tolow xilligan ma Kismaayo ayay joogtaa. waxay igu tidhi Ikraan wayna la socotaa. waxaan idhi sidee? waxay igu celisay dhagoma lihid miyaa adiga? maya waan leeyahay ee igu celi waxaad ii tiri ayaan ku idhi. ma ku celinayo ayay jawaab iiga dhigtay. waxaan u soo jeestay Fardowsa dhankeeda waxaana idhi taayar waxay leedahay Ikraan wayna la socotaa ma suuragalba? Fardowsa inta ay soo egtay bay ii tiri madaxa ayaa ii xanuunaya walaalo, aniga afaarahaas iga daa. waxaan istaagay bartanka gaariga. waxaan ugu dhaqaaqay tirin dadka. waxaan eegay wejiyadooda ilaa xitaa aan hubiyey darawalka. maamadii tusbaxa weyneed oo difaaca wiilkeeda weli ku jirta ayaa ii tiri maxaa kaa lumay wiilow? waxaan idhi waxba. waxaan isaga soo laabtay kursigaygii. waxaan eegaa Sundus, haddana waxaan eegaa Fardowsa. markii dambe waxaan go'aan ku gaaray inaan agtoodaba ka kaco oo waxaan aaday kursi cidhiidhi ah oo ku beegan safka hore ee gaariga. marna gadaal uma soo eegin labadii gabdhood, ayaguna mid walba meesheedii uunbay fadhiday. weli waxaa maskaxdeeda ka guuxaya Ikraan wayna la socotaa, oo micnuhu noqon karo hadda ayay nala safraysaa. laakiin waxaan aamini karo ma ahan maxaase aniga ila gudboon. waa maxay xaqiiqda qisada Ikraan? waa maxay qisada Fardowsa? waa maxay qisadaydu? xaggee Ibraahim ku ambaynaynaa? xaggee qisooyinkan ku kulmayaan? la soco qaybta 10aad. ku soo dhowaada qaybtii 10aad ee taxanaha maalmihii tegay. anigoo maahir jaamacadan ah ayaa idinla socodsiinaya. waxaan fadhiyaa kursi yar oo cidhiidhi ah kuna beegan safka hore ee gaariga, laakiin maskaxdaydu waxay dhex meeraysaa xilliga gudaha gaariga, waayo waxaan caqliyan baadi goobaya sida ay Ikraan nugu wehelin karto xilligan. laakiin jihada aan wax ka goobayo ayaan sax ahayn, waana sababta igu dhalinaysa cadhada iyo go'aanada degdega ee daqiiqad walba igu sii xoogaysanaya. waxaan dhaafnay kontaroolka magaalada. waxaan hareeraha waddada ku sii dhaafnay haween fara badan oo madaxa xaaba ku sita, laakiin mid ka mid ah islaamahaas ayaa gacanta ku sidata waxaan mooday boorso yar oo tandharka ah.
waxa uu istaagay gaarigii kale oo in yar naga yara horreeyey isla daqiiqada ayaan waayey qofkii xaabada iyo boorsada isku wadatay ee hareertaagnayd gaariga waan iscelin waayey calashaan baahida aan u qabo ogaalka qofkaas cidda uu yahay waxayna naftayda kolkaa aaminsan tahay sida aad idinkuba qaar dhegaystayaal haatan malaynaysaan oo waxaan ka simannahay qiyaasta in qofkaas ay noqon karto ikraan oo meel bannaanka degmada ku sugaysay gaariga laakiin armay xaqiiqdu sidaa ka duwan tahay cidna ma ogaan karto arrinkan balse anigu waxaan sugayaa in hal mar gawaaridu istaagta meel uun kadibna inta aan ka dego gaariga aan saarnahay aan u gudbo gudaha gaarigaas kale ee nawheliya si aan u arko cidda dheeriga ee soo fuushay gaarigaas labada gaari midkoodna uma qorshaysnaa inuu istaago meel ka sokaysa kamsuuma ilaa muddadaas waa inaan sii ahaadaa mid go'aankiisa ku sii taagnaada oo xaqiiqda arrinkan soo afjara markii aan cabbaar sidaa ku sii joogay ayaa waxaa gadaal shaarkayga ka jiiday nin iga dambeeyey wuxuuna ii sheegay inay ii baahan tahay ama ay ii yeedhayso gabadhaas fadhida gadaal gabadhu waa Fardowsa oo cidlootay haddana rabto inaan ku laabto agteeda waan eegay waxay iiga baaqday madaxa iyo indhaha laakiin waan iska indha tidhay kadib buu haddana daqiiqada kadib ruuxii shaarkayga jiiday markaan soo eegayna wuxuu haddana ii tilmaamay Fardowsa oo markaan gacmaha iiga baaqaysa weliba aan u fahmay ujeedka baaqeeda halkan soo fariiso waxay gacanta iigu tilmaamaysaa kursigii agteeda ahaa ee aan ka soo carooday kol hore mar labaad waan inkiray baaqeedii laakiin arrinkaasi waxay naftayda ku ahayd ciqaab waayo waxaan diidayaa inaan tago halka ama kursiga iigu macaan gaariga weliba ay igu baaqayso dadkaas wada jira ruuxa iigu dhow ama igu qaalisan agtayda sidaa darteed waxaan u arkayaa diidmadayda inay Fardowsa ka baran karto cashar aanay mar kale u sahashan weydiimahayga ama aysan isticmaalin carab dadab leh dabcan way aragtay inaan qaatay markan go'aan adag waxay markii saddexaad soo adeegsatay isla ninkii shaarkayga jiidayay intaan aad u carooday ninkii waan ku yidhi si cod dheer ama kore war mar kale ha qaban shaarkayga ma aqaano qofka aad leedahay uu kuu yeerayaa ee nin yahow shaarkayga fadlan mar kale ha qaban cidna ha ii soo jeedin hadalkaygaas cid walba oo rakaabka gaariga ka mid ah si nadiifa ayuu u gaaray ama u maqlay sow intaan hadlaya anigu ma ahayn ruuxa indhaha lagu wada hayay markii dambena sow mar keliya gadaal lama wada eegin si loo wada arko yarta saaran gaariga ee uu la fadhigeedu diiday wiilkan arrintaa waxay ficil gelisay Fardowsa oo inta ay soo kacday tiri annaga ayaa jiidayna shaarkaaga ee balqayli ama wax samee inta ay lama filaan igu noqotay baan idhi madaxa ayaa i xanuunaya walaalay iga daa dhibaatada igama aysan tegin ilaa ay iga soo kicisay meeshii aan fadhiyey oo aan ku soo wada laabannay booskeenii hore waxaan se diiday inaan sheekeeyo sida qof hurdoonaya ayaan wejiga mara saartay oo kursiga isla tiiriyey Fardowsa qudheeda daqiiqada ilama aysan hadlin waayo diiradda rakaabka oo dhan baa annagana saaran marka jawiga balha yara dego kala aamuskeenii yaraa ayaa naf walba siiyey fasax ay ku raadiso hurdo yar maadaama la soo socdaalay xilli dadku nasiino isu diyaarinayay haatana la marayo wadda laami ah oo burburna ku jiro laakiin waa la soo dhaafay waddadii rafka ahayd iyo bohlaha miidhan ruux walbana in yar ayuu isla lulayaa hurdo gaarigana xawaaro ku filan ayuu haystaa markan mar dambe ayaa waxaa garabkayga bidix qabsatay Fardowsa waxayna igu tiri ka raalli noqo sidaan kula hadlay hadaayay laakiin waxaa jira hal dhib oo aan kula wadaagin weli kaasoo igu kallifaya inaan keligay mar walba aan fikiro marka waxa aan ka fikirayana hadduu qof iga soo dhex galo uma dulqaadan karo marka walaalow iga raalli noqo si xun ayaan kula hadlay waana kaa caraysiiyey waxaan ka aqbalay cudurdaarka iyo raaligelinta waxaan u sheegay inaan dareemayo xaggeeda waxun inay ka qaldan yihiin weliba fikirka iyo murugada saaran wejigeeda mararka qaar ay haddana diidan tahay in laga garto waa mid aan aniga iga qarsoonayn sidaana waan u sheegay haddana waxaan u raaciyey inaysan u diyaar ahayn inay waxun xitaa ila wadaagto marka sideen ku noqdaa saaxiib caawiya ayada markaan intaas yidhi ayay indhaheeda ila muuqdeen inay ilmo soo dhaafayso laakiin waxay durba saartay maro xijaaba oo isidatay wax hadal ah weli kama hayo waxaad moodaa in gabadha uu damqayo nabar gudaha ah oo aad u kaaraya kullay xilligaas anigu waxaan u arkaa in Fardowsa ay haysato dhibaato ay garan laadahay siday ila wadaagi lahayd aniga waa gabadh
weliba u dhalatay xishoodka iyo deganida haddana dhibteedu kolna ma noqon karto mid aniga ila xidhiidha waayo maba jiraan sababa ay cabsi intaa la eg uga qaado dhankayga markaan arkay ilmadeeda waxaan joojiyey inaan mar kale weydiimo ku celiyo waxaan sahlay mawduuca sheekada waxaan raadiyey jawi kale si culayska uga yara dego dhankeeda waqti xoogo ah kadib ayay labada gaari istaageen meel isbaara ah oo waxaan dareemayay in gawaaridu taagan yihiin ma ilaawin go'aankaygii ahaa in marka gawaaridu istaagto aan ka dego gaariga aan saarnahay ama aan la socdo oo aan gaarigaas kale ka hubiyo ikraan laakiin haddana go'aankaygaas aniga oo xusuusta ayaanan fulin waayo Fardowsa ayaa xilligaas si naxariis leh ugu gamacsan garabkayga bidix oo haddii aan dhaqdhaqaaqo waxa ay waayeysaa xasiloonida yar ay ku heshay hurdada macaan kuna ilowday fikirkii iyo cabsidii badnayd ee haysatay iyada ma garanayo tuulada ama deegaanka la taagan yahay goortaas waxaanse qiyaasayaa inaysan ahayn Kamsuuma waayo haddii ay Kamsuuma ahaan lahayd waxaan heli lahaa carafta geedmiroodka oo uu ka mid yahay cambaha waxaana daaqadaha gaariga soo istaagi lahaa haween iyo carruur wata dambila camba iyo geedmiroodyo kale oo iib jabana daqiiqada kadib waan ka sii dhaqaaqnay goobtii waa habeen mugdi ah waxaan filaynaa inaan si nabada ku gaarno ugu dambayn barri aroortii oo ay ku beegan tahay maalinka 13 oo aan ka soo maqannahay magaalada Muqdisho sidaasi waa qorshaheenna kii ilaahna waa halkiisa weli ma hubo in ikraan ay ka mid tahay rakaabka labada gaari midkood laakiin waxaan dareemi karaa in Fardowsa iyo Sundus ay hayaan xogo aan anigu markaas hayn dabcan xogtaas fahamkeedu wuxuu noqon karaa mid soo afmeerta qisada nala soo martay marxalado kala duwan waana midda ugu xiisaha badan ogaalkeeda oo aniga qudhayda sidiina oo kale aan sugayo ma dirqin karo gabdhahan si ay igu xog warramaan mana ka baaqsan karo ogaalka arrinkan oo aniga iyo idinkaba noo wada muhiima haddaba waa inaan wada sugnaa waqtigeeda oo xilligan soo dhowaaday waa maxay xogta maqan ee dhammaystiraysa qisadan xaggee sheekadan ku dhammaan doontaa maalmihii tegay maxaan kala hari doonnaa la soco qaybta 11 ee taxanaha maalmihii tegay waa qaybtii 11 ee taxanaha maalmihii tegay anigoo maahir jaamacadana ayaa idinla socodsiinaya xilli gudcura uu habeenku aad u madow yahay ayaan ku beegannay deegaanka Kamsuuma waxaana afka hore ee buundada taalla isbaara gaadiidka looga qaado lacag waxaana goobta ku sii horreeyay oo taagan gaadiid kale oo u bareeri waayay in xilligaas mugdiga ay gudbaan buundada Kamsuuma oo goortaas burburkeeda uu darnaa xitaa shacabka way ka degaan gaadiidka marka xilli maalina la gudbayo buundadaas waxaana lugta lala raacayaa biro kala durugsan oo haddaad cagta la weyso ay dhici karto inaad soo taabato biyaha webiga Jubba oo uu yaxaas gaajaysan u jiifo qararka haddaba waa in gaadiidka caawa uu halkan ku hakado sidaa awgeed markii dhulka loo degay waxaan anigu si toosa u abbaaray dadkii saarnaa gaarigii kale waxaan aad uga dhex goobay ikraan laakiin ma aanan soo helin waxaan mid ka mid ah rakaabkii gaarigaas su'aalay gaarigiinnu ma qof dumar ah baa idinka soo raacay bannaanka degmada Kilib wuxuu igu yidhi qofkaas haa waa islaanta halkaas fadhida wuxuu ii su'aalay ma wax dhiba ayaa jira waxaan ku yidhi maya waad mahadsan tahay waana ka sii dhaqaaqay markiiba oo waxaan aaday dhanka islaanta waa qof dhexdhexaad ah oo sidata mara sida boorsada u samaysan laakiin sida jawaanka looga isticmaalo deegaankaas oo ay bixiyaan hay'adaha samafalka waxaa islaanta ugu jira jawaankaas waxyaabo ay ganacsi ahaan ka soo qaaday Kilib oo ay u iibgeynayso dhanka magaalada Kismaayo waa sida aniga aan markaa qiyaasayay markii aan cabaar ku yara dul wareegay islaanta ayaan isaga soo laabtay waxaan markaan soo xaqiijiyay inaysan ikraan saarnayn gaarigii kale ee nala socday aniga oo fikir la cagajiidaya ayaan u soo laabtay dhankii rakaabka aan isku gaariga ahayn waxaan fariistay meel gooni ah waan fikiray in muddo ah keligay waxaan si qaatay in hadalkii gabadha yaraa ee Sundus ee ahaa ikraan way nala socotaa inuu yahay been marka waa inaan isku sii dhibin hadalkaas laakiin waa inaan ogaado waxa ka dhaxeeya saddexda gabdhood ikraan Fardowsa iyo Sundus si aan yoolkaas u gaaro ayaan ka kacay meeshii aan keli ku ahaa ee aan fadhiyay waxaan ku biiray meel ay gogol u tallay Fardowsa iyo Sundus waxaa goortaas aad u xanuunsanaysa Fardowsa oo isaga shakisan in malaria ay hayso
Fardowsa dhinaca ayay dhulka ku haysaa ayadoo la sheekaynaysa Sundus oo fadhida meel ku beegan madaxeeda. Anna waan ku biiray labadoodii oo fadhiya meel dumarku ku badan yihiin. Salaan kadib waxaan ku yiri berri waxaan gaaraynaa Kismaayo. Dabcan qof walba wuxuu beegsan doonaa gurigiisa ama xaafadiisa. Haddana waxaan soo wada qaadanay waqti laga samayn karo taariikh, laakiin weli ma aynan helin fursad aan aniga iyo idinka si furan ugu sheekaysanno. Marka bal ii warrama, maxaa idin qorshaysan? Warka i siiya. Isla markiiba waxa soo fariisatay Fardowsa waxayna tiri ma ilaawi doono wanaagaagii iyo sida aan isu garabsannay. laakiin waxaa jirta qiso aan filayo inaad raadinayso weli oo aad u baahan tahay inaad wax ka ogaato. hadalka marka ay halka marinayso ayaan ka dhaxgalay oo idhi runtii qalbigaygu wuxuu leeyahay waxba ka daasoon ee fadlan ila qabasiya waxa jira. waan dareemayaa waxaad u haysataan inaan ka cadhoon doono ama aan idinkaga fogaan doono xaqiiqdaas, laakiin waa ballan inaanay waxba iska kay bedelin haddii aad runta ii sheegtaan. markaan hadalkaas idhi labadoodii ayaa sheegay sida inuu qofba uu kan kale leeyahay adiga u sheeg, anna ma sugi karo inta ay isu jaakirayaan labadooda. mar kale ayaan codsaday wax ii sheega mise waan iska tagaa. maya ha tegin ee sug ayay igu tiri Fardowsa. haye soo daaya sheekada ayaan la soo booday markiiba, weliba anigoo dhanka Fardowsa u sii siqaya. waxay Fardowsa ku bilowday sheekada hadda Ikraan way kula fadhidaa. intaan hareeraha eegay baan idhi majinba Ikraantu. labadoodiiba way ugu qosleen hal mar. kadib Sundus ayaa tiri qofka kuu sheekaynaysa ayaa ah Ikraan, tan ka weyn maankayga. laakiin si aan hadalka u hubsado ayaan idhi ma ii taaban kartaan Ikraan hadda. inta ay mar kale qosol gaaban ku wada dhufteen bay Sundus taabatay Fardowsa. anigana intaan gacantayda midig saaray madaxa Fardowsa ayaan ku celiyey ma qofkan ayaa ah Ikraan. hal mar ayay wada dhexeen ma ahan waxaan durba liqi karo. waana yaraa aamusay oo waxaan u soo jeestay tii yarayd oo waxaan ku idhi adigana waa qofma. si aan dhib lahayn bay igu tidhi aniga waa Sundus. haddaba waa tuma Fardowsa. Fardowsa waa gabadha uu mehersaday Ibraahim, waxayna gabdhuhu ismagac barteen Ibraahim aniga oo ku maqan gurigii gudoomiyaha Baraawe. sidaa darteed labadan gabdhood ee Fardowsa iyo Ikraan waxay isdhaafsadeen magacyadooda, waxayna Ibraahim isku bareen qaab isdhaafa, taasoo anna markan ku soo laabtay uu ii baray magacyada gabdhaha sidii markaas loogu sheegay isaga. qofna ma filayn inaan 12 ilaa 13 maalmood nala qaadan karo safarkan. sidaa awgeed gabdhuhu ma ahayn kuwa u daacad ahaa barashada wiilashan. waxayse lahaayeen ujeedooyin wada ku maris ah, haba ku sii kala xariifsanaadaan iyaga ku dhooda. laakiin su'aasha ayaa sidee gabdhuhu isdhaafsiga magacyada ugu sii adkaysteen ilaa heer la mehersaday midkood. arrintan waa midda aan qaadan waayay, waxaana su'aalay Ikraan anigoo ugu yeeraya magacii aan ku soo aqaanay ee ahaa Fardowsa. waxay iiga warrantay in saaxiibadeed ay isticmaashay magaceeda oo keliya, laakiin kan aabbaheed aysan bedelin. micnaha waxay ula jeedaa waxay isdhaafsadeen labada magac oo keliya, laakiin qof walba abtirsiinta aabbihii ayuu isticmaalayay. waan ku celiyey sababta aysan xilliga meherka runta ugu sheegin Ibraahim. waxay tidhi Ibraahim wuxuu ballanqaadyo badan u sameeyey gabadha, sida inuu ganacsi ku haysto Nairobi oo uu halkaas ku hayn doono oo aysan ka walaacin nolosheeda inta ay halkaas joogto. wuxuuna qorshaheedu ahaa inay maalmaha ay joogto halka iyo muddada safarka uu wiilkan dhabar ka saarto mas'uuliyaddeeda. ma jirin wax intaa dhaafsan oo ay gabadhani ku raacday Ibraahim. afka ayaa i kala tegay la yaab dartiis, waayo tani waa shirqool uu ku dhacay saaxiibkay oo ay gabdhahan u fuliyeen si wada jira ama ay is wada og yihiin. waxaan idhi waxaan maqlay in Ibraahim uu dhaawacmay isagoo nin maleeshiya kula diriraya inuu kaxayso Ikraantiisii, laakiin haatan noqotay Fardowsa. way igu raaceen hadalkaas, waxayna dhaheen waa sax. weliba odayga la dhaawacmay wuxuu celinayay Ibraahim xilligaas. sidaa ayay xabadda isugu martay labadooda. anigu markaa dib ayaan u fariistay. waxaan idhi Ibraahim waxaa laga galay qalad weyn, weliba dhammaanteen. waxaan bilaabay inaan ka qoomameeyo wax kasta oo soo dhacay. wax kale oo aan dhaho waan awoodi waayey. waxaan se ogaaday inaan qudhayda badbaaday habeenkii isbarashada ee aan u bareeray inaan ku faano xaaskayga. taasna ay keentay in dumarkan ay arkaan nin waaya araga oo aan sahal lagu qaldi karin.
laakiin ibraahim oo sheegay inuusan wax guura soo marin haddana helay gabadh cad oo dhollacadayn qurxoon weliba aad ugu soo dhowaatay dhankiisa wuxuu lumiyey wax badan oo ahayd inuu hubiyo sidiisaba raggu waa mid had iyo jeer u nugul rabitaanka dumarka oo taasi ma noqon karto qalad lagu xugmiyo ibraahim maanta wax yar kadib ayaan keligay qoslay weliba si aada waxay i weydiiyeen gabdhihii maxaad ku qoslaysaa waxaan ku yidhi ikraanta aan maalmo dhan raadinaynay ilaan aniga ayayba intaasi garab fadhiday soo wax lagu qosla ma ahan markiiba iyadii ayaa baqday oo istiri armuu ninkan isna isbedelaa oo weliba jirib way muuqataa arrinkan weji kale u yeelaa laakiin kolna anigu sidaas uma fikirin oo waayo 15 maalmood oo fasaxa ayaan soo qaatay waxaana iga hartay 2 maalmood oo keliya marka ma furi karo dood kale iyo inaan gabdhahan halis ku sii furo xaqiiqdii gabdhihii aan 12 maalmood soo wada safraynay isla habeenkaas markaan iga dhankoodaba waxay ila muuqanayeen sida dad aan hadda isbaranayno oo kale waxaan ka codsaday inay iyaguba isku kay sheegaan aqoonta ka dhaxaysa saddexdooda gabadhii aan horey ugu naqaanay magaca Firdowsa ee haatan noqotay Ikraan ayaa tiri aniga iyo Firdowsa waa Ikraantii hore waxaan ahayn isku xaafad Muqdisho waxaan u soconnay tahriib ayadu Kenya dhowr jeer ayay tagtay laakiin aniga hadda ayaa igu horeyso oo aan xamar ka soo baxay weligay xitaa horey afgooya uma iman laakiin saaxiibtay si xun ayay ii gashay oo wallaahi marka ay boorsada ii dhiibaysay waan isweydiiyey eedada ay aaday sababtay aniga iga tagtay tan kale horey iimaba aysan sheegin wax ehelkeeda oo halkan degan laakiin abtigeed ayaa degan Kismaayo haddana waxaan u malaynayaa ama way gudubtay ama guriga abtigeed bay joogtaa mana aqaano aniga halka uu kaga yaala Kismaayo intaas waxay ii raacisay gabadhan Sundusa gaariga ayaan isku barannay iyada waxayna ii sheegtay inay iyadu u socoto hooyadeed oo Kismaayo degan hadday Firdowsa ayaan anigu isku haleynayay wixii aan sidanayna waa la dhacay wax yar oo noo badbaadayna ayada ayaa haysay hadday sidaan fashay waan iska soo noqonayaa laakiin Sundus ayaan xaafadeeda Kismaayo u raacayaa maalmo kadib waan soo laabanayaa nin raga waxaan ka soo jiida ahayn uu la kulmaa dunida aan ku noolnahay waa mid dhagar miirana waxaad arkaysaa qof galay nabsi oo la ooyaya qofkii uu ka galay ama qof dhibaataysan oo isagiina ah dambiile ruux kale dulmiyay way adag tahay inaad si sahal ah ku qaadato qisaska ka dhexdhacay dad malaayiina oo dal ahaan iyo dad ahaanba burburay qof kastana ay ahmiyadiisu tahay inuu gaaro tiisa oo uusan ka damqayn naf kale oo dartii u baabi'i karta tanna waa cashar uu macallinka yahay waqtigu si aan keligay u noqdo ayaan isaga tagay iyagoo weli sheekada ii wada waxaan tagay dhul aan gogol lahayn mid ka mid ah kabahayga ayaan sida barkin saartay qadaadka aniga oo daawasho ugu dhaqaaqay xidigaha fog iyo mugdiga badan ee ka sokeeya wax la cuno afkayga ma aanan saarin mana helin hurdo sidii ayuu waaga iigu dilaacay kadibna gaarigii ayaan soo fuulnay sidii baan uga soo dhaqaaqnay Kamsuuma wax hadal iyo su'aal oo aan anigu xilligaasi qabo ma jiraan laakiin waxaan dareemayaa carab badan iyo ciil aanan fahmi karin halka uu ka socdo markii aan ku soo dhowaanay kontaroolka Kismaayo oo weli cabaar noo jirta magaalada ayay meel fog nooga muuqatay magaaladii Kismaayo markaas ayay ila hadashay Ikraan oo igu tiri Kismaayo miyaa magaaladaas waxaan ugu soo koobay jawaab haa waxay jeclayd inaan sii hadlo laakiin waxaa xaqiiqa inaan qudhayda awoodin wax hadala markaas xitaa haddaan qasbo naftayda sidii ayaan ku soo galnay magaalada Kismaayo gaariga wuxuu istaagay si toos ah boosteejada wuxuu diiday in looga dago qaybo ka mid ah magaalada uu dhex marayay kadibna hal mar ayaan ka wada degnay dhammaanteen dadka qaar eheladooda ayaa ku sugayay meesha laakiin aniga iyo gabdhaha cidna nama sugayn sidaa darteed waxay noqotay inuu qof walba hoygiisa raadsado waxaan u sheegay inaan anigu joogayo halkan 5 maalmood haddaan u bato oo aan ku darsan karo fasaxayga 3 maalmood oo dheeriya kadibna aan Muqdisho ku laabanayo waxaan u sheegay inaan wax dhiba u qabin kuna faraxsanahay la safarkooda waliba ay yihiin gabdha siiyay 10 waaya aragnimo leh laakiin markiiba Sundus ayaa igu tiri armaad adigana naga xariifsan tahay oo aad tahay Ibraahim waan qoslay cabaar waxaan iri maya anigu magacaygu waa Muxudiin sidaan hore idinkugu sheegay waxba iskama bedelin Muxudiin Ikraan iyo Sundus halkaas ayaan isku macsalaamaynay dhammaanteen waxaan u qoray taleefan aan isticmaalayay waxaan u tilmaamay xaafadda aan ka deganahay magaalada sidaa ayaan ku kala dhaqaaqnay
laakiin waxaan gadaal u eegayay mar walba ikraan oo ay indhaheennu isku dhacayeen annagoo ruuxba uu hayo waddadiisa. fiiro gaara qisadan waxay yeelan kartaa weji labaad oo sida qaybahan iswatay hadda, sida ibraahim oo soo noqodkaygii aan la kulmay, gabadhii sundus oo aan isku aragnay Kismaayo igana warrantay halka ay ikraan ku dambaysay, iyo inay heleen Fardowsa, iyadoo ay labada weji ay sheekaduba dhammaystiran tahayna waxaad ku heli doontaan qaab buuga ama PDF insha Allah. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan asxaabtayda sharafta leh ee ku xirnaa qisadan, sidoo kale inta igu dhiiragelisay inaan ku bixiyo waqti iyo dadaal si aan idinla soo wadaago. sharaf ha ahaato dushiinna dhammaan. raalligelin saaxiibayaal, ka raalli ahaada wixii qaladaad qoraal ama afa ee aad kala kulanteen qisadan inta ay socotay. waxaadna xasuusataan mar walba oo aan hab online ku soo gudbinayo sheekada, waxaan ku talagelayaa inaad heshaan xogta 75% si aan loo samayn xadgudub qoraaleed. magaca sheekada maalmihii tegay sababta aan u xushay magacan ayaa ah inuu yahay magac guud oo aan ku soo gudbin doono qisas badan oo ka hadlaya maalmihii tegay ee adkaa ee na soo maray. tanna waa qiso ka mid ah qisaskaas. wargelin lama isticmaali karo sheekadan oggolaansho la'aan. dhammaad